بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هذا ما أنت يدي الله بأسكله إنه سورة قليل إنه هل كان يسكوني مادنا برنامج كان عاوة وجوهرية ولكن عبد الرحمن شيخ موسى وحلا إلى هذا خبرة وذاك وبرنامج أنا قلت هلا قال لي إن دت كان خبرة دا شقو خبرة دا جناسي حتى الصحف النمو تكلوا يا أرجع ماذا تام واحد دون تان نقطة قف كستو خبرة لي inuu dhalinyarada kale khibradaasi la wadaagi karo si dhalinyaraduna markaa ay ugu noqoto toosha ay ku iftiinsadaan caqabadaha maalin kasta soo wajahaya ama khibradda uu qofka ka bartay si isaguna bari ka maalin markii hawli ku timaado uu wax uu khibrad ka haysto ay u noqoto caawa barnaamijka waa xalqadii koowaad waa qaybtii koowaad waxa Jaanis anu helay oo marti inoo ah Cabdiraxmaan Sheekh Muuse oo khibrad u leh dhinaca ganacsiga sidoo kalena khibrad u leh dhinaca shaqaalanimada hadii hay'adaha NGOs-ka noqoto oo meel wanaagsan ka gaadhay marka aad baad u mahadsantiin Cabdiraxmaan baad ila soo dhaweyn doontaan Cabdiraxmaan ku soo dhaw barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim Axmed aad iyo aad baad u mahadsantahay adiga iyo groupkaaguba aqoon aad u mahadnaqaya ka qaybgalayaashan dirdiran ee aad ku wadaneynaya inay warkan la sugayo dhan helaan aad baad u faraxsanahay inaan noqdo qofkii ugu horeeyay barnaamijkan ila wadaaga wax badan anima dhaamay waxaan ila wadaagayaa jaraanjaradan la wada fuulayo ma u taqaanaa qof walba sidoo ku soo fuulay baan sidaan ku soo fuulay iyo inay caqabadu wax koomana yihiin insha Allah taala ma sidoo dhawe aad baad Cabdiraxmaan u mahadsan tahay bal Cabdiraxmaan taariikhdaada oo kooban hadii aad halkii aad ku dhalatay halkaad ku barbaartay waxa ila noocaas family-ga hadaad khiyaarta la wadaagto aad baad Axmed u mahadsan tahay magacayga sidaad ku aragteen warqadda walaala Axmed Siidaaye waxa magacayga Cabdiraxmaan Sheekh Muuse Cismaan waxaan dhashay gobolkan Awdal habeenkii la magacaabay oo ku beegan dad raadinaysaan kulay aanu dadka qarqariye meehi 15 Juun 1984 magacayga lay bixiyeen habeenka wuxuu noqday Cabdiraxmaan Awdal laakiin aanay dadkoo dhan yaqaanaan ma ehelku way yaqaanaan waxaan dhashay aabahayo culimadii magaaladu kamid ah isagoo mawlidka akhriyay oo farxadii habeenka akhriyay ayaa wiil baa ku dhashay markaas uu bixiyay Cabdiraxmaan Awdal sidaas dhalashaydu xilligaas ku soo beegantay laakiin aanay sakaro dhalinyaranimo oo dhalinyarada ku dhex socono badan baa jirto qolo walba si ay isku naqaano taariikhdayda hadda markaa dhalashadii xilliga ka soo bilaabantay waxaan ku barbaaray miyi waliba xoolo iyo beero ah oo agropastoralist waxa afka Ingiriiska lagu yiraahdo beero waan soo qoday beeraley waan noqday waan qoday waanan dibigana waan meeraray waanan sanwaday ariga waan soo eegay waana soo qabtay looda waan soo eegay waana soo dhaqay waana soo lisay marka miyiga waxbarashadii dugsiga hoose oo dhan waxaan ku imanayay miyi kaymaad baan ahaa marna magaalada markii dambe markaan noqday class 4 ee magaalada u soo wareegay inta kale oo dhan miyi dhafiif fogna ma tuur qaylo meesha dadka u badan ee boorama ay ka yimaadeen waan ku yarfaanay waxaan dhaqaatiirtana way leeyihiin oo qawsiya kamida bayloodkii u horeeyay Soomaaliya sheeyna coofle tuur qaylo ka yimiday wadaadkii geed gobolo tujinay Sheekh Maxamed Caatiye geed gobolo ka yimiday aabaha garsoori magaalada tuur qaylo ka yimiday macallimiintii dugsiyada bilaabeen tuur qaylo ka yimaadeen marka waan ku yarfaanaa saasaan u yarinaanaa moogtay taaween sida kale markay taariikhda kooban noqoto xagga shaqooyinkana wax kasta waan soo maray business waan soo maray enjoy waan soo maray skills kala duwan waan isbartay marka dib baynu insha Allah inta kale iskorsan Axmed aad baad u mahadsan tahay kulli tuur qaylo mar haday dhakhtarre iyo bioloodiyo ka soo baxeen wax kale waa weyn oo inuu ka sugeynaa su'aasha kale aan rabay inaan ku weydiiyo si kooban waxbarashadaadii oo heerarkaad ka gaadhay waa mahadsantahay Axmed waxbarashadayda dugsiga hoosaan ka soo bilaabaya waxaan ku soo qaatay dugsiga hoose xawata kalena araqsa waan ku beeray markaan yaraa mar baa leeyahay waa la qabsan kari waayay laakiin xawata kada hoosaan deedna waxbarashadayda ku soo qaatay haddana xawata kada dhexe
class 5 kii baan ku dhigtay intii kale waxaan ku qaatay dugsiga cabdiraxmaan la yidhaahdo cabdiraxmaan sheekh nuur elementarygana loo yaqaano kaasaan ku qaatay secondarygayga waxaan ku qaatay sheekh cali jawhar jaamacaddayda digriga koowaad oo aan bartay management science-ka waxaan ka baqaatay eelo ardaydii ugu horreysay eela ka qalinjibsaan ahaa master degree-gayga MBA baan ku qaatay project plan management cambuud baan ka qaatay taasi waa formalka waxbarashada caadiya laakiin skills badan oo aad u fara badan traininna nooc walba leh baan qaatay oo ay skillska ay ka mid tahay saxaafadda inaan bartay communicationka inaan practitioner noqday project managementka iyo ku shaqayntiisa mashruuc dhammaantiisa loo maamulo waanan bartay waana ku shaqeeyey deedna sida loo xafiday sida quraanka oo kale loo bartaa ama tafsiirka loo bartaa project management loo bartay oo meel kasta wax ka qaloocayn sida engineerku uu yaqaano ayaan u aqaanaa alxamdulilah researcher baan ahay consultant waan galay skillskaas oo dhan waan leeyahay waa qayb ka mid ah wad maasantahay jazaak allah cabdiraxmaan waa nin badan aan mar kale halkaa waxbarashada ku noqday intii aad haddaba waxbarashada muddadaa qaadatay ku dhex jirtay qisooyin ama wax challenge kaa hor yimi caqabado haddaan soomaali idhaahda kaa hor yimiday oo dhallinyarada khibrad u noqon kara iyo qaabkii aad u xalisay wax laga xusi karo waxbarashadii ku guda jira noloshu sida way caqabado badan tahay level kastoo nololeed oon soo maray caqabado way lahaayeen laakiin dhowr story baan ila wadaagayaa story waxaan ila wadaagayaa iminka jaamacadaad ka wada baxdeen story waxaan ila wadaagayaa markii aabbahay dhintay nolosha sidii aanu bedelay allah u naxariisto macallinkayga noloshu ahaa actually was struggle man ma garanaysa wuxuu ninkii maxkamadda boorama markay dalku burburay maxkamadaha sameeyey buu ahaa maxkamadda boorama sameeyey reer booramana xadhiga barbare odhan jiray dilka ma baqna xadhiga ka baqaan marka dhexda lasii wada waan heshiinay sheekh muuse wadiga odhan jiray bay dhalay waxa deedna wax badan baan dabadeed markuu dhintay baan history-an la wadaagayaa markii aabbahay dhintay waxaan noqday waa layga weynaa waana layga yaraa laakiin mas-uuliyad faamilnimaan isa saaray ninnimo marka loo eego wiilkii u horreeyey ee secondary level gaadha baan ahaa carruurta intoo badanna waa iga yareed waxaan deedna isa saaray mas-uuliyaddaan isa saaray inaan shaqooyinkan ka shaqayn jiray atleast wax yar bedelo leefal ahaan yar bedelo class form 2 baan ahaa class form 2 markaan ahaa waxaan la imid inaan shaqo raadiyo class form 2 nin shaqo raadinayo waad garan kartaan shaqadiisa aanu raadinayay shaqada opportunity kaliya bannaa waxay ahayd macalinimo xilligaa la raadiyo oo lacag yar fiican lagu qaato macalinka u sarreeya $100 buu qaadan jiray like $1,000 hadda u dhigantay lacag fara badan bay ahayd $900 baa la qaadan jiray waxaan fursaddii ka helay deegaanada waan ka waayey boon baa imtixaan laygu sheegay boon waad maqashay soo ma waxaa imtixaanka ii ogolaaday oo CV-gayga u geeyay sheekh xasan taye aan loo duceeyey iminkan waxaan xusanayaa waad u socdaa laakiin waa da'a in ilaahay dembigiisa dhaafo runtii waa dadka magaalada cidbasi ba u taqaanaa laakiin aniga meel gaaruu kaga yaalaa is a role model waana wax badan bay ii suuro gashay imtixaankii boon waxaa la yidhi dugsiga dhexe macallimiinta dhigtoo dhan iyo hoose dhexe imtixaana laga qaado kii baan maqlay form 2 baan ahay imtixaanka inaan galan doonay imtixaankii inaan galo horta waa la ii diiday oo markiiba 2 kooxood baa loo kala jabay laakiin isagu dadkii ogolaadu ka mid ah wasaaradda waxbarashaduna way ogolaatay daahir maxamuud xaddi isna mataqaana uu nool yahay ilaa loo duceeyay isagana abaal la waanu hayaa runtii meel kastana waan ka sheegaa abaal ay galeen macnaha abaalka waxaan u leeyahay dee abaaluna cid familigaygu ii gelin buu ii galo because uu tijaabiyey uu ogolaaday lacagii muu siin laakiin try buu guri imtixaankan galay waxaan noqday ninkii uu sarreeyey 96 baan keenay kii ugu soo xigay 52 buu keenay basic imtixaanka la qaadayna English wuxuu ahaa xisaab xisaabta aad kana xasuusto waxa kamid ah iminka dugsiyada aad loogama xiiseeyay qofka yaqaan khatar baa simultaneous baa loo oran jiray Englishka Soomaaliga isba bardhig baa loo oran jiray xisaabniyo 3 formula lagu shaqeyn jiray 3da formula qofka yaqaan khatar buu haan jiray
markii dambe de xisaabada saaskiisi waxyaabo kale iyo way yeelatay mogta birikaal kula siiyo imtixaankii markaan galay ee noqday ninkii u sarreeyey waxaa haddana timid caqabad odhanaysa ma ninka iskuul dhigta ardaya ayaan u ogolaanaa inuu shaqeeyo daahir maxamuud xadaa xabadda igu hiiliye abaalkan u haya weeyaan waxaa lagu yidhi waa ninkan ardaynima loogu diiday imtixaanka markaa laba kooxood ba u kala jabeen sheekh xasan dahiye koox kale haysatay markaa sheekh xasan dahiye wuxuu hadduu imtixaanka galay niyo imtixaanka loo tixgeliyo deedna waxaa laga dhigay inuu isagoo wato dameerahaguna meel ma wada daaqaan isku qolana ma nihin dabadeedna waxaa la yidhi malaha farsama laga fikiray meel layga soo geliyo markii la waayaba ninku waa arday daahir maxamuud xadi ninkii yidhi buu ahaa imtixaanka ninkii u sarreeyey xaq buu leeyahay inuu shaqeeyo foontuuna waan ahay oo ka baxaya foontiri baan galayaa halkaa laba challenge baa haddaba iga hor yimiday challenge waxaa iga hor yimiday sheekh xasan dahiye shaqadii ka tegey iska wareejiyey xilkii kooxdii iga soo horjeeday baa imtixaankii mar haddii laga ogolaaday meeshii soo fadhiisatay dugsigaygiina arday baan ahay oo weli somalilan kamay dhicin arday yidhaahda distance learning baan kusoo dhiganayaa inuu noqdo waxaa dhacday in lacagtii baa laga dhimay intii la qaadanaya waxbaa laga dhimay maadaama arday taa lagu yidhi waan aamusay marxab baan idhi waa inaan lacag helaa inaan shaqo helaa horta waa muhiim dugsigiina professor xaamud mataqaanaa ilaahay isna dembigiisa ha dhaafo wuxuu aan ahaa the first anu ma garanay xataa arday kale meesha lagu qaado the first somalilander secondary distance learning ku dhigtay jaamacadood maqasheen distance learning niyo waa lagu soo dhigtaa laakiin the first and the only baan anu aaminsanay inaan ahaa ku dhigta dugsiga shaqaale joogo distance learning toban buug baa la dhigan jiray foontrigaygii oo dhan waxaan ku qaatay distance learning sidaasaan haddana nambarkii shanaad soo galay alxamdulilah marka hore waa iska fiicnaan jiray waxbarashada deedna dadaalkayga taas siiyey foontrigayga oo dhan distance learning baan ku dhigtay familygana waan u shaqaynayey marka xagga dhinac baan kareer kabtama dhalinyarta waxay dhahdaa one was PhD da markaan ahaa degmadaan tagay PhD holder baan u ahaa foontu baan ahay waa tuulo magaaladani ma laha cid quraan u dhigtaa ma laha cid kaloo upgrade u samaysaa qof levelkan weli gaadho oo dhex jooga waa aniga business opportunity baa markaa ka sameeyey waxaan aan ku baro waxaan sameeyey markaa madrasad quraan ma laha gelinka dambe quraan baan furay wiilasha gabdhaha u dhigo lacag ku riyaalan ka dhaliyaa gelinkii dambena waxaan furay private ingiriishka Newcastle 2ga 12aad baan marayay Newcastle 1kana si fiican baan u bartay waxaan bartana waan qaybi jiro si fiican baan u aqaanay iyo dhigista inaan gudbin karo akhrisan karo marka ninka inta bartay PhD buu halka ka ahaa waxaan furay private isna motivation la oo dugsi oo class 1 iyo class 2 lacagtii lacag ka badan waan dhaliyay waxana waan soo baray form 4kaygii markaan noqday ma hadba soo wareegay form 4kaygii baan ka bilaabay halkaasaan business ka galay business ku horeeyay in officially furto form 4 baan furtay macalinku ilaa aglaan jiray shaqada Johor anoo form 4ka markaan ahaa was rich man ma garanaysaa oo macalalo loo shaqo yimaado substation loo macnaha waxaan taan igu dhiirigelinaya struggle-ka halkan that's one challenge and challenge kale laftiisa waxa jiray yaro kooban midna skillkan iga soo qaadanaya midna kale challenge-yadu they are many meel kasta challenge waa jira meel kan nolol kasta talaabo kasta oo qaaday challenge wararkay challenge-yada waxyaabaan ka gudbi jiray iyo sida waxyaaba formulooyinkan isticmaali jiray sida ilaa hadda qaar ka mid ah isticmaalo taadib baan igala wadaagay waxa jira computerka waxa lagu bajiray computer application kan waxa la dhahdaa skill-ka yare office-ka lagu barto 6 bilood baa boorama lagu baran jiray 6 bilood way fog tahay oo nin shaqo raadinayo inuu xarafsada raba dabadeedna inuu galo inuu 6 bilood si dhex joogo computer 2 bilood lagu dhigan kara ma bilbaadina 6 bilood la wadi jiray business bay iyaga u ahayd laakiin anu maan arkayn hargeysan deedna ka helay informationka in sidka college ay dhigta 2 bilood intensiveka typing-kayga waxay godhan waan bartay deedna waan tagay 2 bilood fasax baan bil baan haystay markaa bishii markaan haystay ayaan dabadeedna bishii koowaad ee 2005 ayaan tagay deedna halkaas waxaan qaatay lacag yar aan bandeyn waxay iyada lafteedu economically family ahaan ma nu dhisnayn inaan dabadeedna aan
bartaa oon halkaa u taga nin jaamacaddii la foolo kale loo diro kalaan ahaa sahay wixii yaraa lee heli karaya waa lee ururiyey waxaan xasuustaa hargeysana lug ku dhameeyey waxaa ku dhigan jiray iyaga hargeysa garanaya taasi macnaha waxaan idin soo qaadanayaa tusaalahan igu soo qaadanaya maha wax kale inaa ardayda markaad tihiin iyo skill kastoo raadsanaysaan waxa la dhahaa boorma job center ku taalo waxa laga yaabaa inay fogtay leediin laakiin aad bay u dhowdahay marka loo eego meelahaas markaa waxaan noqday haddana halkaa markaan soo bartay computerkii weliba practitioner baa ku noqday taasina waxay iga dhigtay inay skillkaygii ii kordhisay laakiin caqabadahan ku soo maray aad bay iyada lafteedu ay istaragal ahaan marka qaarkood inaad ka noqoto maalkan joogi kartaa waxaasoo dhan baa ka mid ahaa iyo xilligeeda aad dhiganaysa waqtiyada orka ahaa siro qoomba intaan ila wadaagay laakiin noloshoo dhan caqabada way leedahay waxbarashadaydu way lahayd shaqadu way lahayd weligayna intaan shaqo ka shaqaynayay waxaan garanayaa 2 position oo kaliya appointment laygu siiyey magacow laakiin weligay bariiskayga wuxuu ku jirin tartan inaan galo ma garanaysaa deedna imtixaan inaan galo deedna ku helo imtixaan inaan galo inaan ilaa imka consultancy-ga imtixaan inaan competition inaan galo 2 dhagax oo adag dhexdoodun ka soo dhex qaado taa maxaan isiraahdaa waxaan hadii lagu siin lahaa waxa la oran lahaa waa in reer hebel baa siiyey moogti laakiin taasi dhinac bay waxaan idhahdaa waa adag bay dhinaca kaa dhigaysaa dhinacana inaad deedna mar kasta tiraahdo waxa adag meel adag buu ku jira aad baad u mahadsan tahay iminka waxaynu galaynaa barnaamijka intii mucd ahayd waxaan ku siinaya waqti fiican oo wax kasta oo khibrad aad kula wadaagi doonto marka adigoo ka bilaabaya shaqadii kuugu horeysay tii ku xigtay saa ay sidoo ka dhiidhiibiyeen isla markaa dhex gelinaya iyo kulli noloshu isku dhex jirtaa ganacsiyadii aad samaysay marka inta dhameysay insha Allah aad iyana ku sii dhex darto wixii khibrad ahaan dhalinyaradu aad soo dhan karto waxaas wax laga baran karaa marka waqti fiican baad haysataa ku raaxayso aad baad u mahadsantahay Axmed waxaan iga soo bilaabayaa class 4kaygii idna saasay mixer ku yar noqon kartaayoon sidii kolba diyaaraddu halkii la fadhiisanaysay isku la faahno class 4 markaan ahaa markii ugu horreysay shaqadayda bilaa class 4 hadda form 4 ma class 4 primary school dad bay sir weydiina weynay buu ku yar galay xilliga weyni baa lagu yar gali jiray laakiin weyni sii weyn ma hayne shaqadii horreeyay ka shaqeeyaa waxay ahayd macalinimo guri tuition home waxaan gurigan ku bilaabay waan xasuustaa wuxuu ku yaalaa Siberia geerishka Cabdiwaraabe ninka la dhahdo iskale arutiisaan u bilaabay 4 baan ahaa waxaan u dhigi jiray anaa u soo gacan qabtay literacy-gaan bari jiray farbarashada waxaan bari jiray basiga waxa loogu soo dhigo madrasadda iyo iskuulka cagtii horreeyay qaataa 5 riyaal bayd hadda moment riyaal baa la qaadan jiray boor waqtiyada hore xasuustaan bir 5 riyaal hadda waxba laguma falay laakiin $5 oo u dhiganta hadda ayaa lacag fara badan bayd markay bishay soo gasho markii uu horreeyay haddaba isku filaado inaan breegayga yar iyo pocket money-gayga yar iyo deedna shayada qaarkood yar jeclaaday inaan soo iibsan karo aaba markuu wax igu daro way wax igu darto ama deedna aan ku soo iibsan karo xilligan bilaabay macna shaqo jacayl bay ahayd haddana markaan gaadhay dugsiga class 5 markaan gaadhay waxaan ka bilaabay shaqooyinkan qabtay waxa ka mid ahaa inaad la yaabtaan baa laga yaabay dishwasher baan noqday waqti baan soo baran jiray waqtina suxuun meydhahu dheel baan ahaa family restaurant buu ahaa laakiin waan ka shaqaysanayay waan caawinayay waan ka shaqaysanayay deedna waiter baan noqday deedna ganacsiyada restaurant inta badan igu aragtaan halkaasaan ka soo galay deedna waan lacag baan ka heli jiray lacagteeda labiskayga danahayga igu filayd صح وقتها كان لعبان برنجري شقة flexibility لي هيد لعقتها كقاعدين جري مركب بشين سكو جاي لعق واحد نقول نسلي ريال 3 ريال لعق بدل نعاس نقول جرتي لكن يوميا ما كو قاعدين جري تاوان صور دافي مركان عندنا إيمد عندوكسيجا دحق جاري معلمة الجريان سيحوجي معلمة الجريها dabadeedna waxaan noqday markii dambe macallin ay bartaan xaafadaha oo dhan way kala doorin jiray ana kala doorin jiray xataa deedna saasaan
isku soo kabay markaan dugsiga sare gaadhay gaar ahaan aan gaadhay for one ideyaan la yimiday waxaan la yimiday businesska marka laga sheekeynayo waxaa jira modalities iminkaan baranay laakiin dawaagaa ma aqoonin laakiin iminkaan garanaya markaan ku eego noloshii hore modalities waxa weyn idea inaad kol walba la timaado oo businesskaagu dynamic kolba dhinacuu dhaqaaqi karaad u dhaqaajiso idea markaa waxaan la yimiday waxaan ahaa waxaan arkay looskoo lagu xidho bacmiikado sida caadiga loo xidho waxaan arkay shaaha qaxwaha haylka baalka la yidhahdo seera loo xidho waxaan idhi sidan maxaa loogu xidhi lahay nin baan arkay haylka soo xidhxidha koox baan arkay sida u xidhaan shamac yar bay dhigtaan dabadeedna way xidhxidhaan waxaasay dhi wareedha looska haddii saan loo dhigo hawta qurux badan qofkiina uga hawl yar kana qurux badan faa'iidana laga heli karo marka dadka waxa loogu dhigi jiray 200 shilin waxa iyadoo bacmiika ku xidhan arrinkana keenay looska noocaasaan u xidhay markii horse laba dukaamo ku tijaabiyay waan xasuustaa markii dambe 10 dukaan baan u geyn jiray 200 shilin baan ka siin jiray 200 shilin baa deedna iyagu siin jireen deedna halkaas lacag baan ka dhalin jiray waan imaadaa khamiista gelinka dambe maalinta khamiista fasaxahay baan deedna looska waan soo iibsan jiray deedna gurigaan ku saloolaa weerada way caawisaa deedna waan iibiyaa anaa se just profitna way ahayd innovationna way ahayd markii dambe business kale waxaan galay suuqa inaan waqtiyada xababka gelinka dambe oo dhan gelinka dambe oo kale ku iibiyo shaqooyin kale noocaas oo kala waan soo business markay noqoto marka kadib haddana foontugayga waa markaan leeyahay waxaan tagay magaalada Bonn magaalada tuule ahaan jirtay macallinimadan ka bilaabay waxaan waray was PhD historiga la yiraahdo weeyaan halkaan ka shaqeeyay macallinimo ka galay deedna family ana deedna halka aan reerkana ka soo kabayay form 4kaygiina aan ganacsada haddana noqday macallin furtay iskuulka shaqada jawaaragtiisa iyo substation oo libaxlay substation oo jara ku jiray mid kale halkan branch to marka kana macallin iyo substation ku wada furan bixin laybankii waaga la jiray 615 613 615 614 number noocaas isku xiga badeedna yar raaraysan jiro tala samna aad bay ka bijirtay runtii xaaji axmed miisaan baa damiiniga ahaa waaga noo furay ilaa uu dambigiisa dhaafo dadka fahmay aabay saaxiibadiisa macnaha lagu aaminayay ay ka mid ahaayeen kadib form 4ka markaan galay hadaba aan dhamaystay waxaan businesskiina kii qaybta waan xidhay qaybtii kala furan inaan walaalna ka shaqeynayay watay waxaan join gariyay jooyada 6 baan hadda member ka noqday markaan qiyaas ahaan ahayd form 2gayga dhamaadkiisii deedna form 3gina waan ka maqnaa form 4kii baan dabadeedna markaan dhamaystay imtixaankii aan galay GC-ga toddobaadkii kanaasashada wixii ka dambeysay 6 baan ku noqday member ka noqday 6 dabadeedna dhalinyaradu hore lagu bilaabay baa dhalinyaro xilliga la qaatay baan kamid ahaa group badan oo dhalinyaro fara badan oo dhul kala duwan ka shaqeysay kuwa dalka joogay kuwa dibadda jooga bale 6 member ahaan markaan member ahaa dhalinyarada lagu biiriyay baan kamid ahayn dabadeedna shaqooyinkii horeeyeen dhalinyarada aan qabanaa xafiiska marka saas oo kale soo galo dabadeedna maadaama yaryarnahay markaa un bilownahay macna yar kale ma aha laakiin iyaga aan ka yarnahay aynan tuhmeen inaan aqoon badan leenahay computer skill hada xilliga waan leeyahay English literacy ga in yar oo Soomaali la qoro jacbur leedahay oo English ka dhigay waan qorqori karaya hadhow haba leega jeegarayo laakiin leeyma dirin shaqadii horeysa deedaan qabta waxay ahayd inaan deedna xafiiska kuraasta dhigdhiga marka miisaska la imanaya asxaabtii maadaan shaahiyada u dhigdhigo laakiin istaragal bay ahayd waan bartay organization-kii sida aan ku bilaabay less than 1 year and a half waxaan ku noqday key resource staff aan noqday waxaan isbaray wax kale maaha waxaan isbaray organization-oo soo shaqeeyaan waxaan bartay organizational development waxa aad iga caqabatay aamine cilmi farid dadku horeysay consultanada ku bilaabay aamine cilmi farid waxa dhibaanadii u cid waaga dhaweyto maalintii dhaweyto qolinkii waa ka mid ahayd NGO development ka deedna bartay NGO management NGO development marka inta bartay deedna waxaan bartay documentation organization ka shaqeynay wixii ka dhinaayo dhan wixii oo dhan buuxiyay waan dhameystiray networking baan samaystay dadkoo dhammaan isbaranay deedna network marka la sameeyo outreach services network baan executive director ka noqday shaqadii baan bilaabay deedna waa la bartay network-kayga marka uu socday waxaan gaadhay in aan wakiilo noqdo
horta intaana wakiilka noqon waxaan bartay skillka la dhahdo communicationka kow documentary filmska iyo film wax loo duubay iyo wax loo edit gareeyay iyo sawiranta noocyada loo qaaday iyo waxaasoo dhan baan bartay skill xilligaa dhiman bayd oo waxaan background si yar haystay dadkii waqtiyadii Yunus Cali Nuur Noola ilaa uu naxariistay BBC program ay bixin jiray iLearning loo oran jiray oo electronic lagu baran jiray oo journalism lagu baran jiray marka anagoo bartan kaga jiro naga go'ay mashruucu laakiin koox hore ka baxday hortaya kadib waan sii haysay suxufinimadii marka waxaan bartay waxa la Youth Broadcast Initiative radio programs ka loo sameeyo video programs ka loo sameeyo news and magazines ka loo sameeyo editing kooga editorial kooga noocyada sawiranta loogu daro artikelada sida loo qoro artikelada sida loo jaray horanta sida loo article ahaan loo edit gareeyo markaan taa bartay waxa iga caawisay anu skillka waxaan isticmaalay deedna documentary filmka sameeyntooda deedna injooyada programmada aan duubi jiray waana anu edit gareyn jiray waxay kale i bartay inaan gaabis magaalada ka dhimanay noqoto gobolada dhan ay ka dhineed gobolada xataa saxaafadda laftooda ka dhineed waad xasuustaa waad yaryartiin intii noo badan xilliyadan ka sheekeynaya 2007 iyo 2008 suxufiyiinteena oo waaweyn Abubakar Xasan Caafiye Cabdalla Cali Yuusuf yaa ka mid yihiin Home Cable TV-ga qaranka u shaqeynaya xilliga TV-ga qaranka Home Cable baa ugu weynaa University TV Xasan Ciise Raagana uu ka shaqeyn jiray oo jiri jiray waxa loo diri jiray cajalada maalin kadib baa la diri jiray laakiin qofka telefoon buu ku warrami jiray telefoon baa laga duubi jiray deedna sawirkiisa dur ooli jiray screen-ka dad Hargeysa tagtay taas ku soo bixi jiray Boorama TV inta badan may soo gaari jiray ilaa hawada galamoyaan waxaan noqday ninkii horeeyo toobara Abubakar Xasan Caafiye iyo Cabdalla Cali Yuusuf digitalization ka bara waxayna noqdeen gobolkii u horeeyay ee laga soo diray digitalization war yar oo digital 10 megabyte ama 20 megabyte oo ku oo Abubakar Xasan Caafiye oo tay xidhan ama Cabdalla Cali Yuusuf oo tay xidhan oo leh ma taqaanay ay diraan waan yaraa Cabdalla Cali dadkii sida kale soo gacan qabteen suxufiyiintu way iga horeeyeen laakiin digitalization kan sheegay in wixii digital laga dhigo waxayna noqdeen the first ho Somaliland gobolada marka la eego war digital dira marka saxaafadda taawaan isbaray waxaan isbaray deedna NGO-da saa loo manage karay waxaan isbaray human right kan aad u bartay human right ka child protection ka waxyaaba saa loogu shaqeeyo waxaan haddana bartay community development ka waxa dhacdo oo capacity building ka nooca loo qabto waxaan noqday wakiil NGO-yada Boorama oo dhan jooga sida imka ganacsado wakiil wada tahay Boorama wakiil cid wakiil uga yihiin baan NGO kasta wakiil baan u ahaa waa la shaqeysan jiray skillkiina waan isbaray deedna waxay noqdeen wax ciidan la shaqeeyo taas waxay samaysay networkaas wuxuu iga caawiyay in aan dad badan barto Soomaali ajaanib cid kasta isugu jirta lacag fiican waan ka heli jiray ma shaqeysan jiray family man waana shaqooyinka markaa NGO-da ay soo xaysiyaan shaqada markaa aan waaga dalbaday Welfish ma shaqadii horeysay ka bilaabay Welfish imtixaan baan u galay imtixaanka intaan galin ka hor kooxda imtixaanka wadatay consultant ahaan baan kula shaqeeyo shaqayga dalbadeen deedna NGOs assessment baa la sameeyay NGO-da la baarayay iyo waxay ka shaqeeyaan deedna NGO-nu xushaan bay doonayaan la shaqeeyaan yaar assessment ka aniga leer gareynayay waxaan xasuustaa gabadhii imtixaanka waxaan ku wadi meeshiina inaan soo xareystaan doonaya imtixaanka way aamini weyday waxay tiri ma anaga mishaarkaaga bixin kareen waxa ka dhaadhacsanay maadaama waxaan oo cid kasta la shaqeeyo inay bixin kareen ana waxay muhiim ah inaan shaqo beermanat helo jaamacadda markaan saan ilaahay safar moor baan galay sanadkii labaad oo jaamacaddeedii halkaan iga booday waxay jaamacaddeedii habeen baan bilaabay eera waxaan ku doortay waxay habeen bay dhigi jirtay deedna maadaama dharaartii istaragal ku jiro inaan habeenkii wax barashay deedna habeenkii baan dhigi jiray saasaan ku dhamaystay sanadkii koowaad imtixaankii ilaahay uu calfay inaan helo groups kala deedna la shaqeyn jiray laftooda ay doonayeen iyagu laakiin calafkii ilaahay uu siiyay koox badan baan ku joon karay organization-kii aan ka yimid oo Moonlight iyo Says iyo soo koox badan oo saasa organization-ka markaan ka bilaabay position-kii aan ku bilaabay wuxuu ahaa child protection officer buha oo bilowga position-ka laga bilaabo oo horeeya macna officer 2 bay waliba oran jiray waa junior alxamdulillah halka markaan galay meehi dhinaca baan dhaqan kale ahay dhaqanka shaqaalanimada markay noqoto dadka boodbooda meehi waxaan jecelahay meel kaliya ma taqaanaaye ku qoyso ku qalajiso wax ka baro taas waxay ka caawinaysaa
dhalinyarta laftooda waa lagu kala duwan tahay saaxiibada intay 10 NGO soo marayaan inuu helo NGO baan joogay 9 sano ilaa 2 bilood baan joogay ilaa aanu markii damaan go'aasay inaan ka tago waxaan u joogay wax kale maaha waxaad noqonaysaa resource inaad wax ku barato markaad rabtay kaa dhabtay dad mishaar yarun qaadanaysa waa qodob taasi kuma fiicno laakiin haddaad rabto inaad organisation joogto organisationku ku aaminaya day after day waa lagu aaminayaa waxaan ka soo qabtay 7 position 5 position oo kamida waan u tartamay 2 position oo kamidana appointment baan ku helo magacow structure ka la bedelay deedna structure kan la wareegay inta position ee meesha ka shaqeynayay mid walba tartamaan u galay la tartamayay dibadda loo xaysiinayay deedna waa la tartamayay deedna waa la galay qaar internal baa loo xaysiinay waan tartamayay ilaahay uu siinay alxamdulillah waxaana sameynay wax kale maaha waan is dhisay skillka waxa la jira qof walba dhalinyarana inuu sameeyo u baahan waxa computer log inaad noloshaada ku samaysto marka computer log baan samaystay computer log wuxuu ka caawinayaa inaad qorato maxaad maalin kasta waxba ka dhiman email baad wax ku arkaysaa qofa waxbu yaqaana adig ka duwan aqoonsa inay meel ka dhiman tahay qoro qorshaysa waqti aad qabato qorshaysa si aad ku baranayso raadi si aad ku baranayso qorshaysa waqtigaad baranayso qorshaysa waqti aad rabtay inaad gaadho qiimee muddo kadib oo eeg waxaasi maad qabatay mise maad baran tusaale waxa aad rabtaa inaad barato computer skill excel ka rabtaa inaad barato excel ku waa gaab waayahay waad gaab ka aragtay si aad ku baranaysaa markaad qorato kadib deedna saad ku baranaysaa waqtiga muddo kadib maxalkeed ka joogtaa isku qiimeyso skillska deedna saasoo kale aan sameyn jiray meel kasto skill kasta oo position u baahan yahay intuunan iman ka hor baan baran jiray marka waxaan sameyn jiray always waxaan isticmaali jiray formula aan oran jiray effort marka hore make effort dadaal horta deedna plus opportunity markay fursadu timaado eed fursadii ku garaacdo dadaalkii aad samaysay ilaa bila dadaal fursadna ku meeli kartid markaas waxa ku imanaysa successkii ama resultkii aad rabtay positive resultkii aad rabtay deedna muddo markaas NGO-da joogay 9 bilood iskila kala duwan bartay waxaan voluntarily dabadeedna waxaan aaday alxamdulillah ilaahay xajku ii suura galiyay inaan tago deedna waan soo istikhaaraystay 6 qodob baan kala soo noqday 6 qodob baan kala soo noqday waxa kamid ah NGO-da ka baxo oo shaqaalanimo ka baxo deedna aan skillkii aan bartay ama business aan furtay marka uu shaqeynayay consultant-na aan ku shaqeysto markaasaan business-da daba furay business-da waxaan furay 2016kii shaqadana waxaan ka tagay 2017kii baan u sheegay inaan ka tagayo laakiin negotiation kolba yar jiitamayay 2018kii baan ka tagay bishii labaad baan ka tagay 6deedii marka xajkii 2017kii wax istiqaaran ku soo qaatay September baan imid deedna waan negotiation horush ii riixtamaysay deedna waxay ku qaadatay in muddada inta leeg ay gu riixdanto business-yadan galay business-yadu ka mid bay noqdeen consultant-kii na waan ku shaqaysanayay NGO-ga markaan ka tagayay waxa ugu fanisanaa waxa kamid ah shaqay laga tagaa inta badan qeyb warma lagu xantaay nin kamid ah wuxuu yiraahdaa ilaa iminka ragga uga sheekeeya nin saaxiibano ajnabi ah wuxuu igu yiri I've never seen someone from Bournemouth that leave in job easily moqti weligii qof Bournemouth ka yimid shaqada dib yar uga tagay man arag markaasaan kuli let me be the first runtii muddo kadib baa daray soo garaacay ninkii fadhiga kamid ah wax kamid ah anoo casar maqaaxibaan la deedna shaah dhigaya markaas uu yiri maxaad qabanaysaa markaas shaah baan dhigaya markaasaan ku yiri shaah dhigaysaa markaasaan ku yiri video-gan ku shirey markaas video u shirey markaas uu qoslay markaasaan ku yiri waan ku qaraxsanahay because inaan business kale oo struggle kale oo new challenge kale oo aan de naftayda ma taqaanay aan wax kale la galo isagu si kale u arkay laakiin taa waxaan igu soo qaadanaya jismaha shaqooyinkiisa ka tagay nimelhi laakiin barta inaan always new challenge qaadataan inaan qaadataan barataan hadda shaqahan waxaan ku shaqeeyaa consultant-kan ku shaqeeyo waa la talinta consultancy company baan aanu toos u leeyahay company kaliyana waa la shaqeeyaa Premier Management and Development Consultancy Company la establish gareeyay 2015 baan sameeyay
laakiin 2015 baan diiwaan geliyey iyadoo muddadaa shaqaysa deedna muddadii businesska aan furtay gaab baan yar galay oo shaqooyin badan ma qaban jirin laakiin way yaraayeen haddaasan dib u sameeyey marka waxay si caadiya u aqbalay gariyaan shaqooyinka iyo waxa la soo xaysiyo qaarkoodna waanu tagnaa oo gaabiskooga iyo waxaan rabnay inaan kala shaqeynaa sameeyna terinadana waan qabanaa kumbaniyo kale oo la shaqeynaa baa jiraan wada shaqeyn wada leenahay oo communication companies u badan iyo consultanada caadiga aan short term yar hadday yihiinoo deedna aan ku qanci karo deedna aan galaa nidaamkaasaan hadda ku shaqeeya sidaa madaxa bannaan xorriyadda leh taana waxaa la gaadhi karaa un markaad aduu skillkaagaa si tijaabiso skillka looga baahan yahay inaad consultant ku noqoto inaad dhisto marka NGO-da marka laga shaqeynayay khasaariye faa'iidooyin iyo waxay leeyihiin iyo waxyaabo kale businessyada handala galay businessyada waxyaabahan aan soo dhaafay aan dib igu celiyo businesska ugu weynaan galay wuxuu ahaa waxaan furtay brand la odhan jiray City Coffee laakiin shawaarimoyn iyo shaahibo aad ka cabteen shawaarimoyn aad ka cunay biisooyin qaar baa canjara xabash ka cunay waxaan keenay modelka waxaan booramo u keenay waxay ahayd cafeteriadii u horeysay casriga xilliga la socotay 2007 waxaan furay laba xani meesha kareeyay 2016 September baan kareeyay laakiin saan u habeenadeedna March 17 baan furay 2017 waqtigaa dabadeed waqtigaa waxaan keenay inaan noqoto waxay ahayd cafeteriadii u horeysay si casriga u qalabaysan dabadeedna dhalinyarada aan ugu talagalay inay ku sheekaystaan cuntooyin farashana ka helaan sharaabyo farasha ka helaan dadna meel ay isugu yimaadaan noqoto ujeedadeedu taaseed in si dadkii ma tagi karaan hodheelo fog rays ma iman karaan inuu ku fogaa dabadeedna inaan hodheelo saa u fogfogo kale laga raysan karo arrinkan ku guuleystay dhalinyarada meel ku caaweysa u noqoto habeenkii dhalinyarada kala duwan isku bartaan waxay noqotay centerka kulmisa jaamacadaha dhalinyarada jaamacado timid bariga ka timid kuwa dalka jooga cid kasta ay ku sheekaystay isku bartaan dhalinyar badan oo aan aqoon dib baan u barto ilaa imika suuqa marka Maria Cabdiraxmaan City Coffee bay yaqaanaan oo magaalada ay dib baan magaalada ugu bartay waayo age-ka yagiina way kala tagtageen age aniga uu garanayo ama shoodha Cabdiqani yaqaana ama qownimada yar in hebel igu yaqaana baa dabadeedna aan ku bartay business hana way hirgelis businesska waxaan ka bartay marka cuntooyinku waa businessyada aan ugu jecelahay in laga shaqeeyo African sida caadiga aanu businesska mudada rabtay investment saddex nooc investment ka u sameeyay qofka ku dhaadaa investment wax la cuno una ama la cabo dawo cunto biyo ID bisail ma garanaysaa Afrikaanku waxaan bay ka doogtay mar uu hurdaya uu cunaya uu soconaya uu shaqeynaya uu soo shaqeeyo uu cunaya uu saanay deedna shaqada noocaasi deedna waa immediate profit baa laga heli karaa second ka waxaan ka dhigay waxbarasho qofku inuu dugsi quality la furo oo deedna si tayo la duu sameeyo dadku waxbarasho jecel yihiin bitay karaan marka arrinka kale saddexaad waxaan ka dhigay service dulla la noqon laba guri kala iibiyo saddexda business un ba immediate profit kule Afrika marka laga sheekeynayo marka cuntada waxaan ku jeclaa profitka ka sokow uu shaqaalaysiin badan yahay wuuna khayr badan yahay marka dhinaca laga gadii lahay ku waafajiyo waa cuntada bisil dhariga waxbaad ka dari mid miskiina ku imani shan miskiinadii ku yimaadana saddex laagta ama laba eriyo saddex baad siini shanta siin karto ilaahay ku waafajin shanta baad siini ma garanaysaa mid baa soo mari miskiin buu wax weydiisanay mid baa ku cuntada ku leexa waxbuu ka siini khayr integrated oo isdhex wareegaya weyn waxa kale uu leeyahay shaqaalaysiin badan yahay waxa laga yaabaa intaas soo qof inay ka shaqeyn karaan laakiin uu problem badan yahay waa the most headache business waxa ka shaqeeya bini'aadanka dadka ugu daran baa ka shaqeeya dadka ugu inta ugu badan dadka wax suuq wax ka cunaana waa cid la hayn kari waaye oo sababta uga cunay waxay tahay sababta la hayn kari waaye marka laga tago waxa kala ma gurigii markuu imika xasuusto xoranay laxoodi baa taala ma oranayo waxa ka yar bedel sheekada xaafaddu ma sheegayo wuxuu kale jecel yahay waa qof unique jecel oo wax yaro gaar inuu isaga soo nafisa jecel dadka safarka dadka soo nasib ku leeyahay mad garanaysa ka safarku gaajoonaya uu soo galay waari si mi isku garaacaya
أنا dadka hodheelada waxaan rabaa markay tagaan dadka weydiin bada BAC qajisi baa deeda waa furtay deeda ana sidoo kale leeyahay waxa kale oo ka shaqeeya waa magaalada kaliya ee haddana businesska markay noqotay boorama ka furitaanka restaurantka waa magaalada kaliya dadka localku inay shaqaystaan jecelayn laakiin markay magaalooyinka kala tagaan way ka shaqeeyaan halka markay joogaanna ma shaqeeyaan hoostu ka soo marinayaa deedna $1 bay hooyadii soo siisay halka $1 ku baashaysanaya suuqana ku cinaya miiska maanta dhan u fadhiya kursiga hargeysa markay tagaana way shaqeynayaan muqdisho markay tagaan way shaqeynayaan garow dad hodheelka soo shaqeynayaan maree baydhaba ka shaqeynayaan maree boor baa ka shaqeynayaan maree dhaqan kale kaga duwan yahay waxa weeyaan hargeysa waxa ka jira inaan dhalinyaro waxaad helaysaa waa master degree buu diyaarinayaa wuxuu odhanayaa haddaan tiisiska dufaacayaa waqtina waa waiter waqtina waa mar kasta oo dad wax bartaad heshana standardkii quality-gii shaqada iyo service-ka wanaajin kartaa shaqadaas waxay ku badaysaa marka inaad dad badan soo tahriibiso meelo kala duwan ka keento oramo ku shaqayso deedna qaar carab ku shaqeeyaan qaar meelo kale tahriib qaar magaalada uu soo galaya markaas oo shaqada u horeeyo nin qof kasto magaalada miyi ka soo gala uu dheer buu shaqada ka bilaaba markuu saa u yimaado wuxuu ku oranayaa oramada yimaada shaqada ka bilaaban waa baarash markuu miyiga ka yimaado nin kasto oo miyiga ka yimaado Soomaaliya uu dheer buu shaqada ka bilaaba ma weel xalaa ka bilaabo ama ku yiraahdo shaqaan maanta bilowhay deedna shaqaale maada ma jirta shaqaad ku hagaajin oo isleedahay waxaas ku yar haboon yahood uu soo yar dalici deedna marka hore weel xalista wax yar bari bal weelka sidoo loo soo meel loogu ururiyo loo kala ilaaliyo deedna markuu inta barta dalo yar socon googoyn buu galeeda hadduu dibadda soo yarbaxa waiter buu noqonay labiskaad yar bari style saad markuu khatar yar noqdo mid baa ka iibsanaa dhinaca way ka daratay wana marka ishiga leedahay waxa weeyaan faa'iido badan bay leedahay the only thing wax laga helay waa 70% 80% waxa sameysay wax laga helaa haddaad macnaha ilaashanayso laakiin problem ku leeyahay waxay leedahay waxa la micro management ku markaad quldad wax bartay aan nahay kuma fiicno micro management waxa weeyaan waa inaad war buuga sida kada wada leexi hadana ku celi warsan aan ku wari wardana saan u dhig wardana always waxaad dhex joogaysaa businesskii deedna shaqooyinka noocaas qofku way weynayaan skillkaaga leadershipnimo hoos ku dhigaya growthkaaga waxa kaloo sameeynaya inaad dabadeedna aad tiraahdo bilaysan wuxuu dhacaanad dad micro management kama tay kartid meel kale kama tay kartid dadka dhaqaaqdo rag qaarkood ka shaqeysto kale aad bay waxaan u sadeen laakiin dawaashii aad arkayso khayr badan wax badan le waxba lagu tanaasulay ama skills badan maadaama lahaa waxaan isku daynaa dad shaqaale u sameeyo maamul waxa soo shaqeyn kari waayay deedna inaan intaan meelo kale ka furayo ama la helayo human resources bedela balaamid bay gur qaadatay inaan jaanib soo tahriibiyo Kenya Ethiopia ka keeno deedna aan shaqada u dhiibo inaad shaqeeya iyo inaan dabadeedna aan modelkan bedeloon intay dadku hagaagayaan dadku iska soo fiicnaanaya ma filaya waayada dambe restaurantadeedna saasan ku bilaabay baraana kala duwan baan furay laakiin haddaad ka shaqaysanaysaan waa bisida ugu fiican boor mana wada business sideeda caadiga business wax badan buu kaga fiicay haddaad business ku dadaan business waa faa'iido laakiin muxuu ka rabaa saddex qodob inaad ku xisaabtanto kow inaad commitment leedahay commitment kaaga inay kaa go'an tahay waxaan aad qabato waxaan kaa go'naato deedna aad aaminto in Ilaahay wax ku siinayo waa arsaaq yaa waad furaysaa tawakkal cala Allah baad leedahay shuur waxba ku soo galay waana diyaarad waana doonta badda ku jirto kolba dhinaca u dagaysa kolba biyo ku soo faxay deedna maalin waad macaarisa maalin faa'iideysa maalin cirka ku talagal laakiin waa number 1 commitment aad yeelato laba inaad leedahay communication kaaga inaad dadka la xiriiri karto qancin karto kana ku imanaya kana careysan ku waiterka mid kasta ismaaciil u sameeysaa dejisa waa inaad macaamiilo canaaqsan baa ku imanaya waa inaad dejin kartaa waxa soo dhan ara minku waxba hariko naga cunug qaqalay dad ilaa hore ka waxa la rabaa inaad qanciso qof kasta inaad qancisan rabo communication marka waxa weeyaan inaad wuxuu ka bilaabmaya deganaansho hadal wanaag waji furnaan inaad taqaanaa business modalities oo aad doonto kolba dhinaca u socoto oo la socoto suuqu kolba xaaladdu yahay iyo wixii soconaya hadduu suuqu shirinka sameeyay waa inaad taqaanaa expense management wixii aad yareyn karto shay ganacsi kasta oo galayso nooc doon ha noqdo la soco kolba dhinaca diyaaradda u deyn doonto socoto Cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay halkaasi
intaanan su-aasha xigta weydiin waxyaalahan aad muhiimka weyn ka dhex fahmay khibrad ahaan durbaan ka helay waxaa ka mid ah qodobka aad hore ugu waday waxaa ka mid ah wax isbaris isaga wax isbari intuu raadiyo meelaha gudololada uu ka leeyahay inuu meelaha wax iska baro sidoo kale inuu xidhiidh samaysto qofku hadduu keligii yahay wax badan maama laakiin qofku intuu yaqaanaay waxay suuro gelinaysaa intuu hore u sii socon karo sidoo kale waxaa ka muuqatay cabdiraxmaan dadaal badan iyo adkaysi oo marar badan meelo badan iyo howlo badan uu adkaysanayay waxay ina jirtay inuu xirfado badan oo kala duwan ama soft skills ama technical ha noqotay inuu xirfado badan iyadana isbaray cabdiraxmaan intaana su-aasha ku xigta ku weydiin halkii city cafe haddaan ku yaro noqdo horta city cafe waxaan ka markhaati kacaynaa meherada ugu camiran way ahayd oo aad bay u camirnayd maxaa sababi jiray inay camirnaato su-aasha kale labaad boorama waxaad moodaa in kafeteriyuhu aad isku bebedelaan oo intuu kan la furo haddana ku cusub haddana ku cusub maxaa khibrad ahaan bal maxaa kafeteriyaha horay iskugu bebedelaan ama maxaa xidha su-aasha labaadna waa taa aad iyo aad baad axmed u mahadsantahay siduu axmed sheegay city cofe ujeedada koowaad kale markii u horreysay waxay ahayd inaan helo meel dhallinyaradu santar ay isugu yimaadaan ay ku sheekaystaan oo hargeysa waxaa meel isugu yimaada ahaan jirta waaheen iyo markii dambe summertime baa loo guuray deedna meel lagu santar saasoo kaleayna inay noqoto meel la isugu yimaado taa waxa ii suuro gelisay mayna taa u camirnaatay customerska intaa lagu hesho waxaan isticmaali jiray saddexdaa skill way iga gooneed horta waan qaatay communication ma sameeyo qof kastoo meesha keenayo inuu qof weji furan inuu noqdo ku daali jiray dabadeedna dadkan aan weji furnaano problemkoogana fahanno deedna problemkooga aan dabadeedna kolba sidii loo aan macnaha qofka markaan maanta barto dabadeedna customersku waxay jecel yihiin haddii iminka aan adoo miiska joogo ku yimaado ninka hodheelka aan ahay wadda isla caagadaasaa ku hor taalla aan idhaahdo no caagaddan caagadii hebel ayaa ma caagadii hebel maaha taasuu leeyahay u soo qaad just taasaad aaminaysaa satisfaction intaasa ku tahay waxaa kaloo jeceshahay inaad aragta u tagto qof aad meesha ka garanayso ku tixgelinaya lacag baad wadataa lacagta waxay ku bixiyaan soomaalidu haddaad doonaysa soomaali la shaqaystaan meel laga garanaya geeyaan meesha laga garanaya nimo ma geenayaan faaliyu qof gelinaya wow great sax maalmaha lagu waayey war qof gala waan maqraa wallahi bilaa markaa saa u soo galay waxaan ka fikiray waa inaad tagtaa ugu odhanaya waxaad qofkan wuxuu jecel yahay meel uu garanayo lacagta ku bixiyo dabadeedna meeshii baa laga garanayaa meesha markaa lagaa garta deedna faaliyugaaga baad garanaysaa deedna gabadhan macmiil bay tahay oo nimco waadan waad maqnay muddo fara badan laguma arag maalmahan customer ahaan baan hadda maan misgareynba ma garanaysaa laakiin maxaad qofkan niyadii baad u dhisood wanaajisay just waa hadal wanaagsan dhinaca kale marka laga eego qofku waad dhiirigelisay qofkii customerkii baad joogtaynaysaa kow taasi waxay kaa caawinaysaa maintenance-ka macmiilkaagu inuu markastuu lacag haysto uu kula soo hadlo service-kan oo wanaaji af soomaali keliya maaha quality-ga qofka weydii everything kastoo laga cawdo way adaa ka caban jira wax qajid ma laga deynaya waxan ma laga deynaya qofka u sheegay sonkorta ma laga yeeranaya qofku noocuu ka fikirayay baro deedna ugu shaqee shaqaalahaagana bar talabaad kale caawisay inaan ku joogo waxaa ka mid ah modalities-ka waan la shaqayn jiray cimilada kolba nooca uu gurto kolba waxaa loo yar badan yahay jeebkaan la shaqayn jiray jeebka modalities-ka ugu badan isticmaali jiray waxaa ka mid ah jeebka lacagtu mar bay quustaa la waayaa waqti waxaa jiraan ku shaqayn jiray 6000 pocket la dhaho 6,000 shil magaalada 6,000 shil bas average 6,000 lacag baa la waayay xukuumadda kun markii hore dhalatay aad moogtay deedna laxa dhacday isbedel baa dhacay deedna deyman badan wax dhacay mooyaan dalka ina UN waxbaa dhacay deedna lacagtu hoos buu taabatay dhulka sarifkan uu cir ku tagay deedna waxaan sameeyay pocket money qof kasta inuu 6,000 shilin iibsan karo average 6,000 sameeyay marka waxa cuntada 6,000 ugu badiyay soo wiija kamida waxa noocaas deedna qof kasta uu iibsan kara ardayga wata kala wata qof kasta 10 kun buu wataa waxa weeyaan 6,000 wax buu ku cunayaa 2,000 wax buu ku cabayaa 2,000 oo ku baashaysanaya labada gelinaya kala gaarka 10,000 kaas aniga ay targala deedna waxa sameeyay in dhalinyarada oo dhani ay dibadda fadhiistaan deedna hadday konton dhalinyaro soo fadhiistaan 30 wax ka iibsadaan deedna 30kii 20kii kala haddana 10 ay yar taabtaan xantayaan deedna cuntada yar danayaano
baalka imsa laga siiyey 6 kun baa laga siiyey waa balkeen hagaana kaasoo kale deedna modaliska ka mid ah waxaa ka mid ahaa iyadna aan isticmaali jiray dadka aan la shaqeynay nooca yihiin targetka modaliska ka mid ah inaad nooca la shaqeynaysa waa arday baa ugu badneed waxa yimanay ardayda waxaan baraysan jiray maadaama researcher ahay waxa ugu badanay la siiyo bishii loo soo diro deedna waxaan sameeyey dadka ugu nadiifsan buug baan u sameeyey waxaan ku idhi bishii imsaa lagu soo diraa suuqa imsaa kaga baxda intaasaa kaga baxda waayahay lacagta badhigo markaad bar kaa dhigato wixii kaa gafa bisha markay dhammaata soo bixi deedna way bixiyeen way dhigteen maxaan ku hantiyey kuwaasi waa dadka gurgure roofinka roofin waxaa dhahdaa qolooyinka gurgure businesska mataqaanaa meelba meel kulba hudheel tegi jiray roofin kasta markaa waxaa ku guulaystay in uu joogo oo lacagtiisa aan hantiyo maxaan ku hantiyey qofkan haddana 10 kii horreeyaan sameeyey 5 ka mid ah failure bay noqdeen markay lacagta baaqi lagu yeeshay waryaa way goosteen markay goostaan hudheel agtaadu wax ka cunayaayo kaashkeera buu kula dhaafay moogta deedna waxaan ka fikiray inaan inta ku dhaado lacagtaadina si iyo inaan ku dhaado lacagtii macna male kolba taad ku heshaad ku bixinay macaamilnimadii soo celi dhib male qofkii igala baxsanaya lacagta yare kale waa soo hantiyey maxaan tusay inaan kula socdaa waayadana warkaaga waa la helay nixnixin lacagtu way dhammaataa waa la helaa anna waan helaa waan waayaa deedna macaamilnimada gooni inteeraad haysato iskala imo saad hesho ku bixi haddaad sanad kadib heshay ceeb male laakiin yaanan kala lumin daweyana kala waji waaye saaxiib way imanayaa digid macaamiil joogtaa lacagtii yaraydna habeen kasta wax yar helo waa kan wax ku yar daraya deedna lacagtiina way ka dhamaatay maxaa kaloon hantiyey customerskii joogtada ahaa baan hantiyey lacagta magaalada si tooska u gelin jiray nadiiftii waxaan iyadna sameeyo kale macaamiisha ugu isticmaalka badan ugu macaamilka badan promotion baan siin jiray sanaan habe waxa laga yaabaa inuu bishii hal habeen ku yimaado familiyada wax dalbado kale waxay rasaayeen u raacin jiray waxa laga yaabaa inay yiraahdaan waxaan ka rabnaa caawa family baan leenahay ilaa waxa nagu xidhnaan jiray 10 family dabadeedna 10 ka family waa kowgeer wuxuu qaadan jiray 10 xabo shawaarima qaarkood 15 qaarkood 20 qaarkood 30 saasoo kale waxaan raacin jiray maanta kale waxaan jiray bas intaas ma sharaabkan waa ku adiga xaajiyada sharaabka ogana ma soo saarayeen waa free laakiin taayir maxay sameynaysaa abi hooya iskale sharaabka yar kuwaas sharaab bilaashna inoo soo raaciyaan baa la odhanaya marka promotion ka fikir marka ka kaliya ma hadaad ka shaqeynayso xataa dhar hadaad stationery ka shaqeynayso promotion inaad siiso 1 pen ad macmiil yar siiso customer no special baa tahay keligii baa dalaas lama wada hadlaysid keligii buu ismooday waxa inaad 30 macmiil siisaa laga yaabaa laakiin keligii soo inaad siisaa isku haysto والله إنك أسي بروموشن قاعد يسيق قالك أرمي بس كذا ومالين كسوق حسوسني أو كوي منايا صدق كي معامل مالين كلا هذانا صدق كله هو سوق الشيء أنا وإنك توني في عنو كي صدق كي كلا هذانا مالين كلا سيسي ساسي كوس عنسا ديدنا مركا لقوا لبرنا لقوا شقينا يو برنامج ديفلوبمنت كانوا حلو استعماله واحد هذا بير تو بير وحلو استعماله قفلة لا فلا ثانا واحد كوس مثلا ساعة تاسينا وحيابا مركا نعوية كمل هيد dhalinyarta aan raali gelin waxaan jirnaa saaxiibada ma haye waxaad ku oranaysaa saaxiibay inuu leeyahay ma ogidba waxaad ku oranaysaa saaxiibada qaar wuxuu soo raadinayaa ayuu saaxiibada yuu ka wadaa way soo kuma weydiini dadku ma yaqaanaan markay su'aalaha yar noocaas noqoto question kama keenaan saaxiibadana saaxiibo la helay marka ku tiraado waxa laga inuu isleeyahay wana ninka Yusuf ee la socoto malaku arkay Yusuf kan mubaarak laakiin waxa ka dhaadhacsan inaan aanu deedna u qofkiiba u yeedhay oo keenaya taasi marka waxyaabaha caawisa kamid marka waxay noqotay meel la isku wada sheegay message-ka ugu fiican waxa weeyaan message-ka dadka la dhexmariyo message-ka dadka dhexmarinaysaana inaad taqaano content-kiisa fariinta markaad bixinayso waxaad mar walba isku tijaabi adigu hadii lagu wada go'aansan noqonaysa lagu wada deedna message-kaasi noocu yahay بعد بدنا ذاك قاعد إذا نحن مركز ما حلو فكر يعني قف قصة يلاحظوا إن مهرة بلاي ما يلقوا علينا مقعي لأن أو ذاك قالوا قفكوا حتى كوقنا سنين سيرفيس كاجا أو بعد ما صدق قف كوي ما تحلقة طبعا كوقنا مش كوقنا عوان شان تاس ده بدنا السنة اللي بعدها كلا سوتشي ثانية واو شيء كله ذي شعير هندي
waa beer to beer ka dadkaas jiidanaya moogta waxa iyadna yes businessyada waxyaabaha xidha cafeteriaanku waxyaabaha ugu xidhista badan bay ka mid tahay haddaan igu celiyo waxyaabaha xidha waxaa ka mid ah intaana tii qodobkii hore markii hore igu celiyay inuu sheegay waxaa jira expectation dadku waxyaabahan ku bartay waxaa ka mid ah maqaaxibayso dukaan bay galayaan 20 dumara sii galayso ka soo baxda ku sii gasho 20 kan kumar ma waxba iibsadeen maxay iibsadeen waxay iibsadeen value-giisa isma weydiinayaan maxay soo socota ma dartay halka ka furtay waa khatare taa ka soo horjeedo wallaah macaamiisha baad helaysaa oo si fiican bay ku socotaa magaaladu way socotaa waxyaabaha dadku markay furanayaan oo fake expectation baa ku jira iyo ku dayasho business noocaasi dadka noocaasi sidoo caadiga u shaqeeya ma guuleystaan businesskooda businesskaagu ku dayashay inuu noqon businesskaagu ha noqdo waxyaaba kale kaga dayo laakiin idea qof keenay ha kaga dayin tusaale nimka haddaan kaaga sheekeeyo anoo idea business aan ku dhaha business noocaasaan furanaya haddaad ideadii qaaratood koobaystood furato adu qofkii wadaya matid anu waxaan markaan ka fikiraya waxaan wataa sida aan ku wadayo problemyada iga hor iman kara sidaan ku xalinayo sidaan ku hirgelinayo businesskuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee aana bini aadan intood maskaxdaada ka soo saarto wixii kugu jiro qofka maad ku shubi qofkan meesha aad u dhiibaysaa wuxuu leeyahay dabeecadiisa wuxuu leeyahay trust worthkiisa iyo nooc uu dhaqmo ethicskiisa akhlaaqi waxaas oo isaga iska wata laakiin anigu ideada businesskan wato haddaan 100 jeer ku idhaahdo ideadan wataa waxa lagu kala duwan yahay implementation strategy nooca aad u fulinayso haddii ayna adi kaa soo inay koobi kugu tahay dee ma karaysaa dhow lacag ma kaaga khasaaray waxyaabaha markaa xidha waxaa ka mid horta koobiga ku badan waa la imanayaa mahradablaha la garaa walaa soo shaqayso maharadan yaas ninka siduu ku helay siduu istaragalka u galay xaalkiisa madogta dushuun baad ka daawanaysaa laakiin waxa ka dhex guuxayay problemkiisa ma ogid waxyaabaha kale xidha waxaa ka mid ah human resource xumo waxaa ka shaqeeya the most difficult and unethical people inta u badan anu saasaan dhaha waa dadka ugu daran ee bini aadan la maamulo haddaad maamulka shaqaalaha hudheelada saa loo maamulo barato shaqaalaha hudheelada dirawallada kaashuwallada nijaaradu ka mid yihiin haddaad barataan saa loo maamulo human resource wax kugu adkaanaya ma jiro way dagaal badan yihiin way islaayaan way seexasho badan yihiin way daraag badan yihiin dhinaca u socdaan inta badan lama yaqaan deedna taasi waxay ku kalifaysaa inuu qofkii qof la fahmi waayo noqdo waayo wuxuu ogyahay shaqeynuna waayin oo adii haddaad ka eg waxa kale sameeyaan markasta lacag yar u ururto iyaga laftooda si lagu maamulo barto waa muhiim markasta lacag yar u ururto lacagta intuu gubayo wuxuu ku gubayaa wax kale kuma gubaan chat bay ku gubaan intuu gubayo u fadhiya saddex cisho seexanaya uu soo kacay saddexdii cisho wuxuu ogyahay in mid cararaya adna ku yimid adigana dabadu dhulku kugu jiiday mid kale uu tagay halka ka shaqaystay meherada balay reference check la sameeyay la soo garaacay may waa isaguna mid buu u bukayo xalay ka seexday waa ka shaqadii galiyay okay dabadeedna waxay dadka ugu daran baa ka shaqeeya shaqaale xumada waa ka mid waxa iyadna ka mid ah koska haddaad koska qof kastoo ku cusub kafeteriyooyinka inta badan waxyaabaha ka xidha koska ka mid ah kosku wuxuu ku xidhayaa qofkani ma yaqaano wuxuu gelinaya waxa ka soo baxay waqtiyadii aan soo galay waxyaabaha ku bartay waxa ka mid ah ilaa imika restauranada consultant baan waay markay inta badan argeysan ayay igu yeedhaan waxaan u fadhiisiyaa restaurantka inuu ma taqaanaa expensekiisa iyo profitkiisa kala barto iyo incomekiisa markuu samaysto halkaas income markaad heshadeedna wixii kale kaga soo baxay laakiin income maaha muhiimadda koowaad waxa weeyaan inaad taqaana shay walba wax laga dhaliyo simbaalataan nii soo qaada 1 kiilo suqaar haddii la keeno waxa laga dhaliyo waan aqaanaa laakiin awal maan aqoontay ka cusub furaya laakiin ma yaqaana laba casha oo dhamaataa lagu odhanaya laakiin marka hore ma yaqaana researchkan muu soo sameeynin oo ismu odhan waana maxaa lagu khasaaray halkeen ka bilaabo barnaamijka uu ka jira okay caariwe dhamaada waxaan imsay ku dhamaadaan maxaa in la isticmaalo ku dhamaantay qoska maxaa laga dhaliyaa taasi caani baa dhamaaday bunka maxaa laga dhaliyaa intee laga dhaliyaa qof ma yaqaanaan okay
oo waxayna waan waxyaaba lagu ay ku khasaaraan restaurant waaweyn magaalada ka jira arfa talooyin noocaas waan siinay deedna ay waqti ay noo yimaadeen waanu ka fadhiisinay problemka jiray ka mid tahay waana waxaanad aqoon waxa aad gelinayso iyo waxa ka soo baxay shay walba waxa laga hela baro marka haddaad taa samaysan weyda ma manage garin kartid qodobadaasaa ka mid a inta kale laakiin waa waxaad ku dhex baranayso kaga dhex baxay su-aal kooban cabdiraxmaan mustaqbalka muxuu noo sheegi karaa uu rabaa inuu gaadho ama uu hiigsanayo axmed aad baad u mahadsan tahay aniga ambitionkayga mustaqbalka dambe hadda maaha laakiin mustaqbalkayga dambe karyeerka meesha ugu dambeysa inaan aan mas-uuliyad ka gaadho aan jecelahay waa inaan hoggaan ka gaadho dalka haddii ilaahay suura geliyo yaraanteedina waxaa la odhan jiray mr president madaxweynaha la odhan jiray halkaa madaxweyne la yidhi inaan gaadho ilaahay baa taa ilaahay baa u taallaa insha allah ilaahay baan ka rajeynayaa laakiin sababtan anu waxyaabaha kariya weynay ku jirtaa meelaha raba inaan gaadho sababta aan u rabo markaan muddooyinkaa kadib haddana waxaan jecelahay inaan noqdo ka sheekeeye waxyaabihii mataqaana uu soo maray si dadka ay nolol ugu noqoto dadka la sheekaysto haddii ilaahay suuro geliyo mustaqbalka meel bannaana aan ka dego deedna dadku ha u yimaadaan la sheekaysto waan sheeko jecelahay sayid caadiga sheekadayda un baan rabaa inaan sii dadkana la sheekaysto una sheekeeyo ina sheekeeyaan okay waayo waxyaabaha caawiya ka mid tahay dadku inayna gaboobin moogta in yaraantii kajaakajaadii yaraantii mararka qaarkood lagu xasuusiyo marka qaarkood waxyaaba badan oo soo marteen waayo waxbaa ka sheekay xataa waxba ma qarin kartid markaa oo maxaad ku qarinay because waa soo martay marka xataa dad badan oo challenges la marteen baa is cafinaysaan oo dabadeedna aad ku odhanaysaa waa waagaad bas saasaan igu samaysaa saasaan uga dan lahayo dabeedna ma garanaysaa markaasood career meel ka baxdana dabeedna inaad kooxdii hore la sheekaystaa imkada lafteeda fiican tahay meel ka baxdo haddaad dugsi ka baxday dugsiga ardayda competitionka iskula soo marteen leefarka waa soo dhaaftay ma ka sheekay la sheekayso oo waxay ka caawinaysaa inaad waxyaabaad waxa ku samayso waxa aad ka dhalacsanaa negative inaad ku baranay who you are in real marka halkaas xataa saaxiibo cusub baad ka dhex samaysan kartaa oo kuwii hore ka duwan saan jecelahay cabdiraxmaan dhalinyaradan barnaamijkay nagala soo qayb gashay waxay isugu jiraan qaar ardaya qaar halganka shaqo hadda bilaabaya qaar ganacsiye leh saddex ama labo talo maxaad siin lahayd tala ahaan maxaad dhalinyarada siin lahayd marka iyaga su-aalaan siin doonaa barnaamijka uu ku dhow yahay su-aalayna weydiin doonaan insha allah aad baad axmed u mahadsan tahay horta runtii dhalinyarada axmed ahaan inaan dhiirigelin aan u baahnayn axmed da'diisa iyo siduu socdaa aad bay u kala wen yihiin su-aaluhu weydiinayana waa su-aala waxaan moodayaaba da'daas agekaasoo kale markaan joogay haddana halkaa yar intaan soo fadhiisaan helayo waxa yaree naga dhex guuxaya saasoo kale ama nayarga gubaya meelahan ku nafisna way yaraayeen inta la helo inkastoo dhalinyar badanna soo taageertay marxuumkii baa ka mid ah siciid maxamed daahir ilaa u naxariisto loo duceeyo ninkaasi nolosheeda wax badan buu ku lahaa runtii waxaa ka mid a ridwaan waa ka mid dadka aadka inbodka ii soo geliyey mahadi cumar sheekhna la idhaahdo adhowda xildhibaannimo u tartamayey dhalinyar aad u fara badan mataqaana iyo ayaa inbodna soo gashaday dr duuso ninka la idhaahdo waxyaaba badan oo macnaha waqtiyadan aan u baahnayn waxaan barayaa haddaba dadkaasi saan wax uga bartay ayaan taladan iigu soo qaadanaya noloshiina haddaad rabtaan inaad wax ka beddeshaan hore inigu qorshaysaday inagoo og haddii kalena imka meel ku qorta ogow noloshu waa barasho laakiin barashadaad ku baranaysaa maaha aad akademikali u baranayso waxaa ka badantaa aad isbarayso isbaristaada koowaad waxaad ka bilowdaa ethicskaaga akhlaaqiyaadkaaga akhlaaqiyaadkaaguna wuxuu ku dhisan yahay kow bidiiniyan waxay diinta horta ogashay waxay ka tagtayna ka tagi waxay ku dhisay laba dad la dhaqanka baro dad la dhaqanka wuxuu yahay waxa kow ka dad la dhaqanka dhagaysigiina biiriya soomaalida way ku adagtay dhegtaada weyne hadda ishaada weyne kuma odhan maxaan ku udhi dhegtaada weyne listening dhagaysigu wuxuu kaa caawinayaa stories fara badan baad helay dhagayso mar kasta ood qof
ballantada dadka qaarkood in khibrad ka waraysto ka hesho markaad ka helayso ha ku badin su'aalaha ee ku pointiskaad rabta intoodu tira waxaasaan kaa rabaa dhegaysiga badi dhegaysigaaga ama note ku qaado ama meel kale ku record garayso ama maskaxda ku record garayso dhegaysiga badi dhegaysiga waxaad ku dadka inay qof kuu sheekay haddaad doonaysana eye contact baa kowka qofka markaad la sheekaysanayso tus inaad attention u hayso deedna wuxuu kuugu warramaysa bisaraaxa ah deedna waxaad ka heli wax aanad cidna ka heshan marka ethicskiina maxaa kowka inaad deedna markaad alkacabska laga yimaado dhegaysiga inaad badisaan laba waxaa samaysaan inaad leenin wax barta qaada laba kelmadood oo ah leen aan unleen wax baro waxaad baratayna iska masax waxaad barateen wax aad dhaqan ahaan meel kale ku barato xun oo aan laakiin ku fiicnayn ama dabeecad ahaan ama dhaqan ahaan ku bedel macnaha ka guur waxa cusub ee ku muhiimkaana baro waxa aad samaynaysaa waxyaabaha waxaasoo dhan kaa caawinayna waxaa ka mid ah saan idiin sheegay competency log samayso competency log wax kale ma adu qorshe samaysan naftaada qorshaha naftaada waxaad samaysanaysaa waxaad qorataa liis skillskaad meesha waxaad rabtaa inaad gaadho waxaad rabtaa inaad noqoto markaad qorato kadibna skillskaaga qoro imika aasleeda way kaa maqan yihiin deedna dhegaysiga dadka kala duwan markaad soo dhegaysatana iskilka kaa maqaneed ka dhex aragta iyaga qoro haddana qorshe dejista marka aad leedahay logayga koowaad waxaa ku jira in aan barto English in aan barto computer skill in aan barto speaking in aan barto research in aan barto specific statistics in aan barto waxaad baranayso iyo saad ku baranayso dabadeedna xagga ugu dambayso waxa kaaga qoran remarkskaaga waa qiimeyntaada waxaad ku qiimeynaysaa si aad u baratay waxay kaa caawisay waxa dhiman hadday wixii ku dhammaystirmeen saasaad ku wadaysaa waa wax competency logaasina uu adigu ku private yahay hooyadaana hala wadaagin waayo waa waxa aad rabtay inaad kaga dheeraysay hebel ama heblaayo waad wada socotaan laakiin waad kala socotaan waxaad ku wada socotaan qofkan waxaad leedahay wana halkaan tagno library-ga tagno wax ku soo akhrisanna baa tiri okay hadduu ku raacay waxbuu soo akhrisay wax soo akhrisay u taala ma sheekaysanaysaan laakiin isagu wuxuu ka faa'iideysanaya waa ugu sir adigana waa ku sir waxbaad ka dhex raadinaysaa adigu ku muhiim aha wixii qoro haddaba competency lagu goormo sirta ka baxaya wuxuu sirta ka baxaya skillkii aad baratay markaad dadka gaarsii wada u faa'iidey ha qarsanin laakiin adigu wixii ku gaar meesha ku xanuunaysa waa la qarsadaa soo meel qaar ka soo ba dadku bareefatada deedna saad u qarsanayso dabeedna waxa yiraahdaa ku xanuunaysa waa daweysay markaad daweysay dad xanuunsanaya dadka xanuunkii wala xanuunku saas uu dhaca waani ugu dhaca markaad ka sheekayna deedna dadkii say iska ilaaliyaan oo professional ugu qaataan oo skill markaad gudbinta u gudbaysa competency logaagu waxa koowaad ku caawinay waana waxaad ku qoranayso meesha marka formula waxaan siinayaa kow waxa weeyaan inaad worship cibaadaysato success kaste qof kasto oo dadaala wuxuu awoodiisu muuqataa intuu alla ka cabsi leeyahay qof kasta awoodiisu waxay muuqataa intuu alla ka cabsi leeyahay alla ka cabsiga waxa badan ba hoos imanaya haddii ilaahay waalidku siiyeyna waa talabaadoo ka ducaysigiisa baso ogowra dadku inta badan saaxiibtinimo waqti ku lumiyaan saaxiibtinimadu waa muhiim laakiin maaha necessary waa muhiim saaxiibana hesho laakiin khasab maaha inaad family-ga khasab markaas inaad joogto saaxiibka la sheekayso general issues baad ka sheekaysanaysan laakiin family-ga way waalidku ugu horeeya da'da marka la yahayna waa inta badan waalidka ma garab joogaan jooga waalidku waa sir dadaal talabada saddexaad in sinayo dadaalka nooc kasta oo dadaali ka dadaal
markaas halkaas dib guushu ka imanaysaa laka cabsigaaga adeeca waalidkaaga markay yarartiin inta ugu badan waxyaaba ugu badan ee la seegay ka mid tahay okay iyo effortka sirta waalidka wallahi waa la dheersadaaye halkaas sir baa ku jirta qof kasta haddaad waraysato ku tiraado ana hebel maxaa samaysaa no heer salaas markaa soo tukada soo maraa ku wadada qaar wad warayso waxyaabahan anu si practical u arkeen qofkan wax ku yartumi waxa oran jiray waa bari warno goormad hooyada weer tagtaayo wana xilligaas oo weer tagaa wallahi kaas ka qatarsan waxa kale okay ragga qaar kood baa khataraayo jimca kasta inta salaada subax ku kalaan cidiyaa ka soo guri jiray waalidka markaas wana wallahi bilaa kaas intaas ka horeeya خلاص dadaalkuna uu noocyo badan yahay dadaalkiina wuxuu muhiim ku yahay waqtigiina sheekadu ha yaraado waqtigiina wax akhriska kolba meeshaad wax ka baranayso kordhiya waxyaabaha wax kordhiyana dadaalka doonaysaan akhriska ka mid ah dabadeedna area imka meel kasta bay ku jirtaaye inta tiktok iyo social media facebook iyo lagu kala mashquulayo waxyaaba kale akhriska ku badin kartaa jira adoona waxba akhrisan xataa haddaad xataa meel kale iska joogto inta earphone-kaaga gashato mobilkaaga aad clip yar shay aad rabtay inaad barato ama aad fahanto youtube ku jira shaha iska cabiya dhigta kugu jira aad dhageysanaysaa cabdiraxmaan taariikhdiisaynu baranay deedna khibrad baynu ka helay markaa kadibna tusaalo inoogu noqonaya meelaha qaarkood markaa khibrad wadaag saddexda ereysaasaan halkaa ugu talagalnay waxaan doonayaa idinka inaan jaaniska idin siiyo su-aalo kooban haddii aad qabtaan inaad cabdiraxmaan weydiisaan marka cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay waxaa kaloo mahadsan Boroma Job Center Ismaaciil Aadan Macaadiye tiimka oo iyaguna xaruntan inagu deeqay barnaamijkana qayb weyn ka geystay iyaguna aad bay u mahadsan yihiin jazakallahu balleena assalaamu calaykum ugu horeyn aan ku salaamayaa adiga dhammaan bahdan ku suganahay hoolkan sharafta badan magacaygu waa cabdiraxmaan sheekh nuux gaahin waxaan ku weydiinayaa qofku horta waxa tiri hadal badan oo maxay ahayd aad muhiim waan ka faa'iiday laakiin se midda kaliya aan u baahanahay waxay tahay qofku marka waxa loo qaybiyaa nolosha mission and vision haddaad leedahay tusaale ahaan qodobada ugu muhiimsan ee dhabar adayga ku noqon kara ama tiir ku noqon kara maxay yihiin baan leeyahay bismillah magacay waa maxamed abubakar cali runtii aad baan ugu farxay barnaamijkan aad buu soo jiitay intaa kadib waxaan ku weydiinayaa hal su'aal su'aashaas waxay tahay waxa sheegtay inaad NGO-yada inta badan aad soo qabato aniguna waxaan ka mid ahay ardayda inta badan project management-ga challenge-ga badan inta badan uu soo cel noqda boqolka inta ugu badan NGO waa mashruuc marka lagu dhimay caqabad waa leeyahay tusaale ahaan markaan dila ka fulinayo mashruuc caqabad buu leeyahay dadka la dhaqankooda ma aqaano waxooda ma aqaano barnaamij kama hadlayo caqabada sida ugu fudud aan u gudbi karo inay sheegto السلام عليكم بسم الله أدو مسي عبد الرحمن الشيخ موسى مقعيقو يعقوب أحمد جامع كان من أرضي كقلين شبسي كلية بابليك هيلث waxaan u baahnaa inaan weydiiyo maadaama uu noo sheegay in khibrad uu leeyahay Cabdiraxmaan in uu khibrad u yahay tusaale u yahay dhalinyarta gobolka marka waxaan doonayaa inaad noo faa'iideyso waxaad noo sheegtay shaqada in challenge lagu sameeyo oo in muddo markaad ka shaqeyso shaqada kale aad inaad ka tagi karto oo challenge oo meel shaqo kale wareegi karto marka faa'iidada ku jirto kale inaad noo faa'iideyso ama noo sheegto أولاً السلام عليكم magacaygu waa Muna Nuur Xuseen waxaan ahay ganacsato hadda ku cusub ganacsiga aan qabtaano waa ganacsi hadda ku yar dalka oo ku soo biiray imika maxaad ii siin lahayd ganacsigaygaas maxaad dhiirigelin ii siin lahayd maadaama hadduu ganacsi ku cusub yahay dalkana waa بسم الله الرحمن الرحيم aad baad u mahadsantihiin dan su-aalahaas yaroo kooban uga jawaabo oo muhiimana cabdiraxmaan baa ugu horreeyey wuxuu ina weydiiyey vision maxaa aasaasii noqonaya ama inaan maxaa si visionkaan u gaadho vision iyo mission waa meesha higsigaaga iyo higsigaaga waxaad ku gaadhayso vision horta sida lama gaadha without mission hadduuna jirin mission oo ayna marka hore kuu jirin mission weli objectives kuu sii jirin oo ama target aad gaadhayso waxaasoo haddiina kuu jirin vision ma iman karo laakiin noloshaada anu waxaan u isticmaalaa qofka
in uu sameeyo saddex c waxaa la dhahaa 3c 3c waa noloshaada dhinac walba way kaa taabanaysaa qofku inuu leeyahay commitment mid kastana detail bay leedahay oo waxaa badan ma kasii faraxama inuu qofku leeyahay number 2 commitment waxaan inuu kaa go'an yahay kaa daacad yahay waxaad kaa yimid yahay inaad leedahay communicationku dadka xidhiidhkaaga noocuu yahay saad ula xidhiidhayso nooc walba communication mataqaanaa inaad deedna u diyaar tahay inaad dadka qancintooda naftaada qancintooda waxaad rabto inaad adigu laftaadu ka hadlayso waxaad rabto si fiican u communicate garanayso xidhiidhka dadkaad la leedahay sida saddexaad waxa weeyaan collaboration inaad wada shaqayn leedahay dadka wada shaqayn la leedahay wada shaqayntu waa ta kuu sahlaysa waayo fishanka ma gaadhi kartid haddaanad cid kula shaqaysa helin wada shaqayntaadu waa dad isku daatihiin dad kaa horeeya dad kaa dambeeya dad dhintay raadkooda raacdo waxyaaba laga qoray saddexdaas mid kasta waxaa sii wada tegaya waxa la wixii value noloshaada ahaa maxaa value ku ah markaad commitment leedahay commitmentkaaga valuegiisu muxuu yahay collaboration markaad ka hadlaysa maxaa value ku ah integritygii inaad leedahay inaad trustworthy leedahay waa sharafti iyo aaminaad inaad leedahay inaa oo mataqaanaaye lagu aamini karo confidentiality inaad leedahay oo sir ahayn karto deedna waxyaaba kala duwan inaad dabadeedna waxaasoo dhan baa ka mid ah mid walba detail bay leedahay deedna saddexdaasi mid kasta inaad si detail u barataan oo naftaada ku salaysa waa istabiska anuu aan is idhaahdo shakhsiyan as formula aanu isticmaalo adna waad bedeli kartaa waxaana ku dari kartaa kale laakiin aanu saddexdaasi commitment inuu jiro commitmentku waa waxa koowaada ee lagu jabiyo albaabka haddii commitment jiro ood maalinka commitmentka tusaale NGO-da commitmentka inaan NGO galo commitmentka kale baan nii sheegaya waxaan u qoray ifad baan u qortay application markaan ahaa class 1 cosi Soomaaliya aan u qoray waxaan ku wiri waxaan rabaa inaan baabuurta idin meedho ujeedadeedu baabuur meedho ma socon waxaan yar bartay typingka markaa typingka wax lagu qorqori jiray deedna waxay baabuurta markaa meedho waraaqay ku yardisan doonaan deedna wax qortaa tusi doontaa halkaas ka soo galmala laakiin baabuur meedho ma socon geliga dambe baabuurta loo meedhi jiray laakiin farsamada u socday waxay ahayd inaan halkaa ka soo galo saanu wada kolba aan modality kolba u bedelay kolba meel u bedelay way iska timid aakhirkii marka saddexdaas waan u isticmaalay maxamed wuxuu ina weydiiyey NGOs-ka challenge-day leeyihiin NGO oo kaliya maaha laakiin aanu dan si yaro balaaran igu sheego office kasta marka office week aad u shaqo tagto challenge u leeyahay challenge-ka koowaad waxa isla imanaysaa saddexdaas uun buu imanaysaa saddexdaas oo ah commitmentka markaan meel iska dhigno communication and collaboration baa muhiim xafiiska NGO-da waa challenge-da u badan bini aadan waxaa la isugu keenayaa ku soo kala koray background kala duwan familiye kala duwan ku soo koray dabeecado kala duwan leh nin waxa imanaya xafiis gurigooga boqor ka ahaa ama gabadh gurigooga boqorad ka ahayd laakiin xafiiska marka la yimaado shaqaale la wada yahay qof wuxuu yiraahdo loo goyn jiray baa yimid dad bini aadanka aad u timid qaar iyagaba loo goyn jiray baa jira laakiin waxaasoo dhan waa laga imanaya waxa la yimaado xafiiska marka shaqooyinka challenge-da ugu badan yimaado team work dadku inaad team work saad ku hesho team workana qofba team player noqdo teamka isku haya si teamka aad u haysana waxa loo baahan yahay inaad communication fiican leedahay inaad kana la hadli karta kana la hadli karta isku wada hayn karta kooxo adeed qof aad dhamaantood la wada xiriir loo wada leedahay wad Google ambassador ka tahay kana isku keenay kara kana dadka maray kala fogaadaan challenge-ka kale jira marka waxa soo dhan laga yimaado dad waxa jira sidooda caadiga wada shaqayntooda iska liidato wada shaqaynta markay liidato qofka isaga challenge problem ku tahay adiga laakiin problem kuma hadii aqoontaada ama shaqada qabanaysa ka dhisantay marka adiga waxa ku muhiim ah inaad skill leedahay skillkaad haddaad skill leedahay
akhlaaqna leedahay skillkaaga mar kasta waa loo baahan yahay mar kastoo problem dhaca waa lagu imanaya mar kastoo hawshaa loo baahdo marka kow waxaa muhiima inaad leedahay teamworkna wuxuu ku imanayaa inaad leedahay sidii waa collaborationka bay imanaysaa integrity inaad leedahay sharafta maaha lama soo iibsada sharafta waa la dhistaa sharaftu waa blocks la saaro kana sharaf ka samaystay waxba kugu ogiya akhlaaqiyad runta taqaanaa warka cad baa taqaanaa shaqalaad kala shaqo waad u dejisaa markaan aad taa leedahay qofkaasi uu kaa iibsamay kaasaan dana kaa iibsamay kaasay ku soconaysaa challengeska tallaafooyinka ugu badan ee enjooyadu faji bay dhahdaanoo meesha office kasta oo la joogo uu jiraa laakiin saad uga tallaabsanaysa waxaa ka mid a skillkaaga ama saad u dhisantahay communication ahaan eed qofka ku xumaynaya lama raba inaad haddana xumayso waa ethicskaan ogolayn waxaa la rabaa inaad barato la shaqaynta qof kasta wada shaqayntiisa adu raadi saad iyo ku raadinaysa kula shaqayn lahaa adu raadi saad ula shaqayn lahayd ka samayso waa shaqaa niga dhaxaysa deedna challenge-da yimaadeen marka hore kusii talagala akhlaaqiyadkaaga inaad wanaajiso inaad waxaa horta qabanaysaa kaa go'an tahay inaad communication fiican leedahay oo dadkan qof kasta xiriir fiican la samaysan karto inaad wada shaqayn samaysan karto waxaa jira new challenge baa enjooyada marka macnaha shaqooyin cusub inaad markaad hesho new challenge saa lagu raadiyaa masha waxyaabay kaa caawinaysa buu yidhi advantageska leedahay cabdillahi bayna weydiiyeen challenge-ku waxaad u raadinaysaa waxay tahay wax cusub barashadiisa shay walba waxaad u raadinaysaa wax cusub barashadiisa waxaanad aqoon barashadeeda oo waxaa cusub waxa weeyaan adigaa og inay kaa dhiman tahay inaad ku shaqayso ama inaad barato markaad raadinaysana inaad wax ka sii taqaanaa waa muhiim waayo cidda ku rabtaa ee meesha u rabtaa haddaan tusin skillka aad u leedahay ee relevant skillka waxa ku ag xeersan ee taqaano haddaanad muujin cidna ku shaqaalaysan mayso inaad wax ka taqaanaa waa muhiim laakiin aad twist gareyn karto ood ku salayn karto sidii ay markaa u rabeen markasta inaad raadisaa opportunity ama challenge inaad raadisaa waxay kugu fiican tahay growthkaaga aday ku korinaysaa career growth ama career developmentkaaga xirfadaada aqoontaada ayay kor u qaadaysaa waxay walaashan munayna weydiisay business aad u fiican ay samaysay business oo decorationka ka shaqeynaya decorationku waa shaqooyinka waa service hadda service provider bay noqonaysaa markaa serviceka talooyinka idin ku siin lahaa waxa weeyaan inaad horta la isgaraysato clientskaaga dadka la shaqeynaysa nooca yihiin inaad qorato groupiska dadka rabta inaad target gariso yaa kuu taargada hudheelada aroosyada xildhibaanada waadho xildhibaanada xataa kuwa dad badan baad la shaqeynaysay saasoo kale u qorataan taa markaa samaysa kadib clientskaaga haddana waxaad samaysataa waxaan kugula talinaya inaad taqaano competitorskaaga dadka kugula tartamaya waxay haystaan iyo se u shaqeeyaan lababa daris cidda hawshan wadaa commitmentkayga baro clientkaaga baro waxaan ka wadaa competitorkaaga baro cidduu yahay usuu yaqaanaa ka waran commitmentkiisa qof idds kasoo koobiyeysto ka fikrunbaa inaad tirsato iyo intay jirta iyo inaad taqaano muxuu ahaa waxay kaaga duwan yihiin waxaad haddana la soo baxdaa marka dambe maxaa suuqan looga baahan yaho labadiinaba niga maqanaa ma adu aad haysataa oona competitorkaa kale haystaa oona adu haysan ama isagoo competitorkaa kale haysan ood adu haysataa waxaad haddana baadhaa oo mar kasta kuu muhiima modalitiskan kuu sheegayay inaan businesskaagu dynamic yahay waxaad u bedelaysaa kolba decorationkani kan hadda aad keentay mar kasta inaad la socoto maxaa lagu bedelay maxaa soo kordhay maxaad ka bedeli kartaa maxaad kaga duwan tahay mar kasta fikirkaaga ku dar inaad wax ka duwan wixii hore la timaado modalityska price-ka ku raaci karaan marka qaarkood dadka tiraahdo waaw weerar kastaba igu soo noqday baa tahay maanta bilaash baan kaaga dhigaba ama tirahdo waxaan kaa daayay 20% 30% mar kasta la ima adu si aad ku soo jiidato ka duwan kuwa kale intaasna waxa base u ah inaad mar kasta research samaynayso mar kasta ogaanayso waxaanad ka shaqaynaysaa
wixii aad ka beddelayso oo sababtaan nii lahaa price mar 10 kuna ku xisaabtamayo cunto wada 6 kuna sameeyey deedna waqtiyada qaarkood aad taqaano qiimayaasha magaalada aad la socotay jeebkooga iyo dadku se waxay isticmaalanaysaa soo kale magaalooyinkana aad tagtay ka safarkuna waa muhiim safarkana safartood dhulka soo aragto ideaad la imanaysaa exposure of visit barada inaad dhulka tagto khibrad soo hesho waxa iyadna ku muhiim oo kale si aad bisida noocan oo kale markaad ka shaqaynayso dadka waxaan ku noocan oo kale waxaan kugula talinayaa inaad qofaad ku kalsoon tahay unaad la shaqaysto waayo waa service intaan bisida ku dhex bartay dadku aad buu kala koobiyeysan badan yihiin marka dadaad ku kalsoon tahay unbaad la shaqaysanaysaa xataa kooxda kugu shaqaynaysaa adigoo nowdkaaga ku qortay caawa nooca design-ka lagu samaynayso oo kuu qornaaday isagoo kuu qoran baad la tegaysaa meeshii sidaan u xidhan baad leedahay laakiin saasaa loo xidhaya kuma odhaysidba waayo iyagu waxuun bay ku dhejinayaan laakiin qofka wata markasta unique buu ku noqonayaa deedna competitorkaaga wuu kugu daba xiiqayaa waayo sirtaadu cid kasta ma hayso keligaaba haysta hadhow taasina challenge kale leedo sustainability-ga haddaad sariirta ka fadhiisato ciddii wadi lahayd laakiin inta hore waad ku macaashi kartaa ma wax su'aalaa jira bismillah magacaygu waa Khalid Nuur waxaan weydiinayay Cabdiraxmaan laba question oo aad u yar haddii aad aragtay horta anaga dhalinyaro ahaan ama arday ahaan marka adiguna maanta carabka waxaad ku yar haysay in qofku wax isbaray isagu ama in qofku isagu self study sameeyo marka anaga arday ahaan haddii la eego badanka waxaan focus saarnaa un kaliya wixii naloo soo dhigay ama waxay jaamacad aan ka soo dhigano ama waxay kooraska aan ku soo dhiganay marka haddii ay jirto khibrado kale oo noo fududeynaya inaan anagu wax isbarno on adaptation ku samayn karno inaad nala wadaagto su'aasha labaad aan ku weydiinayana waxay tahay marka aad tusaale ahaan ganacsi samaynayso kale waxa dhici karta hadhow toole in aad ka fikirto waxaan markuu dhibaato kugu soo noqdo wixii aad ku waajihi lahayd ama hadday imika tusaale ahaan oo kale restaurant baad aad u furaysay restaurant-ka hadhow toole ay dhibaato markii kaaga timido customer-kii si aad adigu ku dabooli lahayd dhowr khibradood oo kale inaad nala wadaagto bismillahi rahmaani rahiim magacaygu waa maxamed cumar maadaama tahay consultantiga raalaha waxaan rabaa inaan inta kaaga faa'iidaysto tusaale ahaan oo kale da'deenan ama dhalinyarteenan waxaad qabatay ma qaban karno yani tusaale ahaan oo kale maanta hoteelan qalloon weel marno waxaan ku xishoonaa marka waxaan ku leeyahay oon rabaa inaad tusaale ahaan oo kale inaad igula taliso ama talo iga siiso kale waxaan ahay arday project soo bartay oo bachelor haysta 6 months baan ka haystaa biz computer ka haystaa diploma English baan haystaa graphic design baan haystaa haddana waxaad qabato ma qaban karo marka what's wrong maxaa generation ka khaldan baan rabaa inaad su'aasha jawaabto السلام عليكم marka koowaad aad baan ku salaanay waxa horta ku lambar ku farxadii ah inaan barnaamij caynkan oo kala ka soo waxa farxadii ah inaan barnaamij caynkan oo kala ka soo qayb galo wax su'aalo dhabtii ma hayo balse laakiin waxaan kuugu mahadnaqayaa sidaad waqtigaaga noo soo siisay oo qof walba oo gadaal iyo horeba ka imanaya aad mar walba uga qancinayso su'aashu hayo adiga walaalkii Axmed aad baan inigu mahadnaqayaa dhamaantiin iyo intiina kala الرحيم هذان سؤال كوبن سؤالان uga jawaabo walaalkay wuxuu ina weydiiyay laba su'aalood oo gaabka waxbarasho iyo macna isbarisaad iyo noocyada dhibaatooyinka ganacsi ahaan ama caqabadaha ka hor yimaada sida mataqaanaa ay looga hortagi karo su'aasha koowaad su'aasha si kooban oo hore niga jawaabay skillkaaga inaad skills bartaa waxaan arkay jaamacadaha waan dhigay Boorama hadda nidaamka xataa hadda loo dhigay sidii hore wax loo dhigi jiray wax badan baa iska bedelay waxa wax bedelayna macallimiinta ma ardayda wax bedeshay lowrkii la qaadi jiray ma qaadi kartaan raamkiina yaraaday waa tramka waxa dhada waxa yare jibka kolba intuu yahay anaga waagi war waxa lagu bilaabay 128 megabyte baa la oran jiray moogta
waan isku dacaynayn jirtay dhalinyarada hadduu qof wax badan qaadi kari waayo jibka kugu jira yar baan odhan jirnay marka ma jibkaada maskaxdiina baa yar ma wax kalaad ku mashquuliseen jibkuna ma yaro oo ilaahay maskax weyn bina siiyey wax badan qaada laakiin isticmaalkayga aynaan barags karinin marka gaabka waxa keenay kolban yar baa la nii soo diraa waan arkay dad ku badiso ama imtixaanka xataa su'aalo badan keento critical thinking baa meesha ka baxay totally qofku inuu wax isku dayo waqtiyadeeda anaga jiisigoo keliya isayga qora la yidhaahdo 3 page qoraa la odhan jiray imiga xataa haddaad tidhaahdo su-aashaas siday maskaxda kula tahay ka jawaab qofka iskuma dayo waxaana gaab ah number 2 iskilkiina isma baraysaan inuu xisbataan baa nagu yar luqadda luqaddu waa bays luqaddu waxa laga xishooda maaha waa luqadda annaga bidinta la joojiya barkskale la istaagto qof Soomaaliland ku jooga luqadda fluent ma jiro dhammaantay anaa hadda nii sheegaya weli waan bartaa luqaddu wax dhamaata maaha waana kolba shaqadaan ku qabanayaan ku aqaanaa markaan report qorayo nooca reportka shaqadaan ka qorayo Englishkiisa ayaan ku shaqaystaan aqaanaa waxaan ka qabanaya saas oo kale macna wixii waa isbaris waxaana markaad gacanta ku hayso is xasuusinaya vocabulary-ga mataqaanaa haddii 10,000 kelmadood maskaxdaad ku hayso 10,000 kelmadood marka aad ma soo waraysaa kartid kolba saad u isticmaalaysaa iyo ku soo baxaysaa isticmaalkayga badiya isticmaalkaygana waxa kow ka inaad wax akhrinta kordhisaan wax akhrisataan waxna qortaan marka skillkiina ardayda intaan arkay waxa kamid ah mar baan dhexlayaan dibadana jaamacada u galay inaan koorsooyin dhigo course baan dhigi jiray financial management and development marka financialka inaad manage garayso waxa ka hor inaad develop garayso dhammaan excelka injoodu isticmaalana dhammaan business oo dhan wuxuu badan yahay excel deedna waxaan ku wiri excel baan deedna waxaan sameynaa budget baan develop garanaynaa theory baan siiyey scenario siiyey theory baan ku tusay deedna practically baan u galay wallahi arday excel intii arday uu dhigayo hal arday oo excelka xataa saa lagu soo bilaaban karinaa waxa problem ka keenayna isma baraysaan ma aqoonsinin aqoonni yahay muhiima secondary markaad joogtay tahay inaad computer ka dhinac iska dhigto iska ugana application iska dabta dad baran weeyay jaamacadda biligeeda ku baro computer application ka waxa la excel ka iyo word ka iyo powerpoint ka iyo publisher waxaaba basic waxaan taas soo nigu soo qaadanaya ardaydii markii handana aan development-kii baray handana management-kii sidii loo kala jarayay inay xisaabtiisa basic-kii ku dhufashadii kala jaristii ardaygu inta haduuna aqoonna financial explanation ma bixin karo donor xisaabtiisa haduu ay ciri ku dhaw soo explain gare oo ma bixin kartid waa basic skill-kii marka basic inaad skill-ka kolba wixii lagu dhigay wuxuu u baahan yahay isbartaan tala sanaysanaya wixii kolba aad aragto wixii ka dhiman isbar hadana maxaan idhi isbar hadana isbar baro oo isbar waxa su'aasha kale hadaan u gudubna riskiga business-yada challenge-yada riskiyada ka soo horbaxa riskigu sidiisa caadiga waxa jira waad ku baran doontaa waayadaad short course-yada gashaan insha Allah ta'ala ma injooda gashaan waxa jira waxa enterprise risk management waxa weeyaan shaqada kolbaad ka shaqeynayso riskiya aad ku baranaysa iyo riskiya anticipated jiro oo sii jiray oo malaawala iyo kuwa hore u dhacay iyo kuwa markaad baranayso marka log baa jira internationally waa la bartaa TOT waan ku hay laakiin waxaan isleeyahay mustaqbalka markaad baran doonto wuxuu ka kooban yahay si yaro simple oo kooban haddaan businesskiina ku saleeyo bis riskiga waa la identify garanaysaa riskiyadaad ururinaysaa wixii caqabad ka hor imanaysa waad gashanaysaa ma urursatay riskigaasi waxaad eegaysaa inta goor uu dhici karo wuxuu inherent ahaan keeni karo muxuu dhaxal kuu keenaya adiga sida aad ku xalinayso iyo waxaad ku qiimeynayso marka riskiyada soo identify garanaysaa businesska magacu challenge ka soo horbaxo dhan waad qoranaysaa taasi waa marka tools noocaas la isticmaalaa ta kale wuxuu walaalkeen weydiiyay waxaan bartay intaas oo aqoonood laakiin anoo inta bartay ma shaqaysaa imika weli ma shaqamayso shaqo waad haysaa laakiin waxaad ka xishoonaysaa inaad shaqo gasho kaliya maaha waa caqabad deegaa ee environment-ka ka jirtaa dadna environment-kii baad la kortood ka mid noqotay laakiin waad bedeli kartaa waxaad ku bedelaysaa wada inaad shaqaysta maxaad ugu baahantay inaad lacag leedahay hesho waxyaabaha dhalinyarada ka mid ah waxaa ka mid ah wiil uu dheel ka soo baxayo isagoo soo shaqeeyey
dibadu ka dhuumanaya ama koor ka hoganaya ama inantii baalka maraysa dusha ka yareega jir deedna markaas ama habeen ba casho soo doonaysa maxaad meesha ka qabanaysaa ka casheynay waa dad inuu meeyay moogta ana way soo martay de ana weelka xalay soo gasho maxaa in waxan saxan baa ku way idin sheegaya bisaraaxa way soo maraa ka mid ah maalin biyo daadinaya baan inaan aqaanay meesha soo martay waa maxay biyo meeshaan ku arko dadka inay ku daataan baa diidanaaba waa waxa dhaca laakiin maskaxda waqti waxaan bartay inaan iska saaro oo dhado halkeedu socotaa waxaan u socdaa waan shaqaysanay oo aan markii dambe deedna aan markaan cid wada ka shaqaysan markaan hudheelka baan tagayaan ka soo shaqaynaya dharka laga shaqeeyay oo dhar uskaga deedna markaas ka soo saartay deedna waayo dad dhishiiska waxa la xiriira deedna ku isgoobaysaa moogta deedna markasta waa inaad dhar aan iska xajin karaad marka wada waxay tahay shaqa ceemale shaxaadka ceeble waxyaabahan buur ma ku arkay waxaan ka mid ah Soomaaliland shaxaadka sharaf loo arkaa abay tacal qarafadu maceeba ma soo sax ده شحات كوا قرفو بروفيشنال باكين بانو بحيانو ما قريسا ولا قرحيوني عاري بلا وحي صادر عاري دي ما قصاو سوغر وقرفو قفكم مركم مالين كسر روح كو قراريستي ما كان مغالada nimidnay waxa ku arkaan bacala watuno liibaan akhwaan salaas wax la soo kalo waa liibaan akhwaantii laakiin professional oo nishaar cadu ma ku weydii marka professional backing keenaga daaya war try shaqe shaqadan xataa waxaad bedeli kartaa la kartaa waxa rabaa inaa weytirnimo ku shaqeeyo shaqa dhaqdhaqa ha u joojin saxibaan shaqaysan dad baa role model u noqon waxa tahay ice breaker albaabka jibisi taasaan ku daray inantii noo mahad celinaya dhammaantiin runtii waan wada mahad celinaya sharaf ay tahay inaan idinla sheekaystay sida caadigeedu ku sheekayna waa sida asxaabta markaan la sheekaysto ma idin ku sheekeeyeen dan wixii naga khaldameyna shaydaan bay u taalaa inta kan ilaahay naga dhaafo